therefore inaynu taa ka baxnaa loo baahan yahay nin jeclaysi iyo nin nacbaysi oo shilinka labadiisa dhinac mas-uuliyiinta iyo shacabkuna ay la yimaadaan lahaansho qowmiyadeed wadaniyaed ay la yimaadaan hoggaankoodana mid ay iyagu leeyihiin oo la xisaabtamaanba wixii hore u dhacay waa dhacay laakiin hadda sida loo joogo dariiqa keliya inu hore u qaadi karnaa waxa weeye inaynu lahaansho aynu la nimaadno taa haddaynaan la imaaninna xaq inaga jira maxaa meesha la yidhaaho adsaaba iyo meel kalena oo cid kale inaga haysatana ma soo qaadan karayno mucaarad iyo muxaafidna inay taa ka midaysnaadaan baa loo baahan yahay odayaashii baan dhegeysanaynaa maanta shirka ku qabtay magaalada jigjiga oo odayaashii ka soo jeeday dowlad deegaanka soomaalida baaq ay direen iyo dhaliil ay u soo jeediyeen dowladda aan wada dhegeysanno kadibna waxaanu ka hadlaynaa hadalladoodii sida ay u falanqeeyeen kaadi yes waxa yar raalli ahaado aan soo saaray هاي جماعة ورحمة الله وبركاته وما أنت مرايدي أديرات سوق على هذه من كوكو أجيب كلامه وحيرك هذه مدة الصومالية وحيرك هذه حنو كان أدون كان سوف وصاري خطرتها إنه لهي كبدادية ودما خاصة ضد الصوماليات aan dawlad maanta aad uga fikirayso oo wixii loo baahnaa gaarsiinaysa aynan haysanin inuu ilaahay doonayna runtii wax badan oo isbed kow haddaan horumarka soo qaado labadii sano ee nidaamkan hadda uu madaxweyne maxaa ahayday uu madaxweynuhu ka jiray haba yaraatee wax mashruuca oo dhammaaday oo shaqeeya lama sheegin meel laba lagama sheegin waxaa laisku raacay hal mashruuc wadday noqotaa horumar kaley noqotaa ceelal bay noqotaa biyey yani wax mashruuca oo dalkaas ay ku nooshahay 11 ruux lagu qiyaasay ee baaxaddiisu ay aad u ballaaran tahay inaan hal meel laga soo sheegin taasna waa problem adag oo xagga maamulka iyo administrationka runtii aad ugu dhaliilan yahay wey waa wax dowladii yani markii maarata maxay wadaniya jirto oo wixii isku casili jiray wey ninka mas-uulkii markuu wax qaban waayo dalkiisa wax ka qaban waayo waa waxyaabaha isku casila wey inaan waddan dhan oo intaas oo bilyan haysta facility badan oo ku shaqeeya haysta majaal badan uu furan yahay horumar lagu sameeyo in layska fadhiisto waxaan intaa raaca waxba yaan la samaynin hantidii ummadda akoonnadii loogu talagalayna kuma jirto waxna laguma qaban meelay aadani lama og waxaa maanta magaalada jigjiga labadaas sano waxaa weeyaan laisla sheegay in baahi loogu dhimanayo xitaa lacagta la xaday ma soo gasho waddanka waa xaqiiqa taas waa tii maarata shirweynuhu maanta uu isku raacay in aan lacagta inflation ka dhiga iyo corruption ka jira waddanka inaan lacagtaas ayna soo toos ay ugu dhacdo waddanka dibaddiisa taasuna waa problemyada ugu weyn iyaduna ee mas-uuliyiinta wadaniyiinta ee dalkooda iyo dadkooda u naxa ay isku casilaan wey taasuna mid weyn midda kale waxa weeyaan biyaha magaalada jigjiga ooma loogu dhimanaya oo gaasha loogu dhimanaya magaalada jigjiga ee caasimadda soomaaliyeed oom baa loogu baaba'aya runtii taasna waa wax la wadoog yahay oo sheergareeya dadka daawanaya sheergareeya sabab oo loogu dhigtana ma intaas oo bilyan baa lagu bixiyaa sanad walba oo biyaa loo qaban la yidhaha aqoonna haddee dadku shahaadaan wadano maana la yidhaha nin walba shahaado wata way dadku ay biyo-la'aan ugu dhimanayaan waa caasimaddii qodobka kale doonaya inaan sor taago waxaa weeye ururo nabaddiidaa jiray lagu magacaabi jiray nabaddiid annagu ma odhanayna nabaddiid bay ahay waxaan aaminsannahay inay ahaayeen dad xaq u dirira oo gobonnimo doona oo xaq u dagaalamayay inay ahaayeen baan aaminsannahay oo waxaa qoriisu dhiib muddo dheer soo bilowday kuwii ugu dambeeyey oo ururkan onlef uu ka mid yahay ayaa nabad qaatay oo way soo galeen aad baan arrintaa uga farxnay markii ay soo galeen 2 bilood kadib ayaan anigu waddankan ka baxay waxaan tegey waddamada yurub iyo amerikan tegey shir jaraa'id baan qabtay shirkaa jaraa'id wuxuu ahaa 2 qodob in
ururka soo galay ee ONLF ee nabadgelyada ku soo galay ee waddankiisii yimid oo aad aan ugu baahnayn runtii labadii wiil ee walaalahayda la isku dilayay inay naga dhammaato dadweynaha soomaaliyeed oo dhan uu ku farxay waxaa ka hadlay in khilaaf uusan imanin khilaaf oo na daashaday oo nolosheenna nala qaybsaday inuusan imanin ee si walaalnimo ah oo mug leh oo maskax leh oo waddaniyad leh oo caqli leh in loo wada shaqeeyo waan ka gudbaynaa odayga labaad baan u gudbaynaa ayaan salaamayaa salaanta islaamkaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib shirkan maanta ninkan odayga waxaan jiray gudoomiyaha odayaal deegaanka Soomaalidu eenu kaga hadlayno dhibaatada intii uu yimid madaxweynaha Mustafa Cagjarbu ka dhacay deegaanka maxaan ku idhaahdaaye dhinac walba leh meel fayowba lahayn wax hadal u soo koobi karo ama la qodobayn karaba ma aha waxaa weeye maanta kelli la soo dhibay oo la soo dilay oo la soo xidhay oo dhibaatatii u darraydu ku dhacday oo soo maray ayaa ilaahay qaadir ahaa naga dulqaaday oo uu naga dulqaaday markii ay yimaadeen kuwan maanta joogaa dadku wuxuu filan hayay in uu u baxo nabadgelyo horumar maxaan ku idhaahdaaye xadhig la'aan dil la'aan colaad la'aan inuu u baxo dadku filan hayay marka ilaahay amarkii ugama ayna faa'iidaynin jaaniskii ay heleen ay meesha ku yimaadeen dadka ugama ayna faa'iidaynin ummadda Soomaaliyeed deegaanka Soomaalida waxay ku kaceen oo uu ku kacay ninka madaxweynaha sheegan hayaay isagoon la dooranin oon cid dooratay jirin oo meel nalagaga keenay inaan waru haynin ayaa meel gaara ninkan u sii haynaya waanu yaabnay kililka waxgaradkiisa qaabka uu ninkan ku yimid iyo meeshu ka yimid iyo siduu ku yimid intaas iyadoo joogtay wuxuu ku daray in uu waddankii dhannaa horumarkii iyo nabadgelyadii iyo wixii laga sugahayay inuu bedelo maanta wixii hore ahayd in si hoose kaas uga muuqday oo waxaa la libaaxa midka ciya iyo midka aamusaa daran ka ciyadee waabad ka gaashaamataada waa kii dadka dilahayadoo ruux ka carari iyo ruuxa heli iyo dadku yuu ahaa laakiin kanu waxa la wuxuu dhaafahayaaba ma jirto ummaddii wuu isku dilay heerihii wuu isku dilay maanta meel nabadgelyo ah oo deegaanka Soomaalida ah oo Soomaaliyu degan tahay ma jirto haddaan idhaahdo waan ku dambaabi laakiin wax yar baa mataqaanaa ay nabadgelyo u degan heerihii wuu isku wada dilay qoys buu ugu dhiibay maxaan ku idhaahdaaye maanta saad u maqlayseen raggii iga horreeyey 21 meelood baa dil ka dhacay intuu yimid oo degaan oo gobol oo degmo waxaanan qabnaa arrimaha noocaasa wuxuu ka qabtay iska daaxo madaxweynaha xukuumaddiisu inay iyagu abuureen oo ay gacantooda ku sameeyeen si heeruhu isugu jeedsadaan oo waxa ay doonahayaan inay sameeyaan ee khaladka ee tuugada ee dhaca ee boobka si aan loogu kashe helin oon loo ogaanin inay sameeyaan inay heeraha isku diraan iyagaa sameeyey baanu leenahay wayna muuqataaba waayo waxbay ka qaban lahayn hadday dowlad ka yihiin waxbay ka qaban lahayn ciidamadii baa jooga xukuumaddii baa joogta gobolladii baa joogta degmooyinkii baa jooga dadkii dowladda wangeliga ka ahaa baa jooga waxa wax laga qabtay ma jiro marka waxaa fasilkeedu weeye inay iyagu sameeyeen intaasaan ku gabagabaynaynaa waa midda ugu daran dheer weeyaan doorashaa layidhi waa la gelayaa gobollada kale ee Ethiopia ama kililada Ethiopia ay timid iyo abiy ay yimaadeen waxbay kororsadeen degmooyin bay kororsadeen
dhaqaalahoodii bay mataqaanaa wuxuu ka hadlayaa 5 degmo uu leeyahay haddii aan laga noqonin iyo isugu imaatinkoodii iyo waxa dhacaya dadkii kala xidhnaa ee isku furmay oo ka wada tashanaya gobol loo heleynin buu leeyahay horumarkiisa iyo nabadgelyadiisa degmooyin bay kororsadeen oday kala sii daayay waxaan ku idhaahdaaye ka hadlaya aniga waxa weeye qodobka nabadgelyada markaan ka hadlo ummadda Soomaaliyeed qabiil waqti ay isu qabsato waxa ugu dambeysay 77 jabadii 77 intii ka horeysay yaa ugu dambeysay qoladaas aan tirtay ilaa hadda intii madaxweynahan ka horeysa tii ku xigtay waxay ahayd tun dadka laysa oo dhacda waxay doonto samaysa laakiin wax qabiil hunguriyeyn karay ma jirin Mustafa markuu yimid qabiiladii way isku guureen way isdileen way isdhaceen dhulkii bay kala qaateen nin kasta maanta wuxuu ku fikirayaa xagee qori bari duleel u doonaa maanta wuxuu marayaa marxaladda qorigii Greenlofka 500 kun marayaa qoriga kayga hana 60 kun buu marayaa waxaa la isku dilay 20 goobood oo deegaanka ka kooban baa dil xagga gooyii ka dhacday waxaa la isku haystaa oo kale oo dil ka dhici doona haddaan wax laga qabanin 48 goobood kolkii taa lagu daran waxa weeye dhibaato aad iyo aad odayga ka aan sii deynayna ka baxayna markaas wax nabadgelyo oo ka jirta ma jirto xukuumaddan ayaa isku diraysaan lahaan dadka sidaas aniga odayaasha Soomaaliyeed ee goobtooda joogna afkooda ku hadlayn waxa isku diraysa xukuumaddana isku diraysa diyaar uma aha inay wax ka qabato qodobka waxaan ummadda Soomaaliyeed leeyahay meel kasta ay joogtaba dawlad idin kala qabato ma haysaane idinku lafiina isu daayaan leh okay oday kala sii deynayna hadii sii marinaya oo la leeyahay dhaqaalihii ummadda ka dhaxeeyay buu adeegsaday inuu kaga saaro hadii Ilaahay yiraahdo maxay ahayday nabadii ummaddu ay haysatay inuu dalka kaga saaro ummadii nabadda u soo xorotay nabadda qaadatay inay nabadgelyo u dib u bixiyo kililkii shanaad oo dhan nabadgelyo darro noqdo Mustafa arrimahaas sababaya taan haddaan odayaasha raali ka mid nabad baan u baahannahay Mustafa wuxuu sababayaa ummadii qabiilka ka dhamaatay ee kililka shanaad ee Soomaalida xaaladeedu mareysay inuu maanta qoys isugu dhiibay baadiyaha kale baadiyaha kale xulanay hadda maxaa la dhihi jiray Shinile iyo waa la ogyahay xaaladooda meesha maraysa hadii la yiraahdo ummadda reer Itoobiya kale dhibaatadii soo gaadhay reer Shinile sida uu ku maamulay si ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacsanaa meesha la yiraahdo Liibaan oo kale ayadana waxa weeye wax lagu qanci karayo ma aha sida ummadda Soomaalida ay noqotay erar oo kale iyo hadii la yiraahdo afdheer xaaladda ka socota iyo Baali waxa weeyaan xaaladiisu xaalad ma taqaanaay sidii nidaamka ahayd loo ummaddu ugu wada qanci karaysa ma aha meesha la yiraahdo Shabeelle gudihiis meesha la yiraahdo Qabridahariya Shabeelle doolo iyo qoraxay heerkay marayaan waa la wada ogyahay 20 goobood bay ummadii intay isku dishay shacabka ahayd yaa wax baayida kala xulanaya jirin arrinta nabadgelyada markuu sidaa u maamulay Mustafa waxaan u aragnaa inuusan xilkan kala hayn karin ummadana matali karin arrintii horumarka ummadda budget bay leedahay 20 milyan baa lagu magacaabay inay budget u leedahay maanta meel kasta oo baa loogu dhimanaya meel kasta caafimaad darra loogu dhimanaya meel kasta oo ay waxbarasho ka jirtayna iyadoo waxbarashadii wuxuu yiri qabiil baa wax lagu qaybinayo ardaydii wax baranaysa way iska daysay ayda mar hadii qabiil wax lagu qaybinayo oo qoonimo talinaynin waa anu iska daynaynaa way maraysaa in waxbarashadii la daayay si maraysaa Mustafa ummadda ma matali karo horumarka markii la eego nabadgelyada markii la eego heerka uu ka gaaray aqoontii heerka uu gaarsiiyay in la joojiyo ardaydii mar hadii heerka uu gaarsiiyay waxaan u aragnaa inuusan matali karin ma oran karayno xukuumaddu kulligeed way wada xun tahay laakiin hoggaankeeda yaan ma taqaanaa matali karin ummadda midaasi waa waxa weeye sida weeye waxaan markaa gabeynaa ummad cid kasta ay khusayso waa warbixin dheer oo ay qabteen maanta
ayay jigjiga ku qabteen shirkan ummadii wuu isugu dhiibay halkaas uga baxaynaa odayaasha arrintooda haddaan u soo noqono ku bilaabo cabdiqaadir jabaal aan ku imaan axmed aan ku imaan waad maqlaysa odayaasha hadalkoodii waxaa ku jira colombia makaa horreysiyaa cabdiqaadir maqlaysaa cabdiqaadir miyaad wax maqlaysaa ma egal اوكي كولومبيا كورسينيا عبد فريش سوق هذا السلام عليكم كولومبيا عليكم السلام احمد اتوقع السلام يا ويلكم احمد ميلاد عبد القادر يا جمال سعد بني سلام يا حاتم الجوجي بس ويلكم كولومبيا كسو دhowow waa la socotaa barnaamijka qaybta hore ka hadal iyo odayaashan aad hadda dhageysanaysay maartay dhibaatooyin badan ka sheegay deegaanka nabadgelyada inay gacanta ka baxday miisaaniyadii dalka 20 bilyan ah gaari markaan la ogeyn dadku inay oon u dhimanayaan gaasho dhimanayaan meelaha qaarkood welcome ku soo dhawow أنا maantii waan salaamaya odayaasha iga horeeyay runtii aad bay u mahadsan yihiin waxaanu in badan sanadaba aynu ka soo hadlaynay intaa baynu soo fadhinay aynu ka hadlaynay horta maanta galteen oo horta ilaahay uu soo hadeeyay baan filayaa odayaasha qayb ka mid ah oo kale awlaaday baasi ku ahaayeen kale waxaan filayaa in iminka ay sidii soo dhaabayaan bad moodaa mar haddii ay maanta ay ka kaceen iyo mustaqbalkii iyo yani in deegaankii Soomaali galbeed ay ogaadeen maanta uu shacab iyo badbaado u baahan yahay horta mar hadday maanta galteen runtii waa alxamdulillah weeyaan أو إن لا فهمينه وحين نقدر جناي ما تينا لقبتين أرتوا مهمة أترنتي عن كل نقطة حلال كان أترنتي شرعي وأتر شرعي مجرين خلنا وين واحد الله واحد شرعي لا إله أو الله قد قوى شعب كتير كسومالي قبل وقاعدين هي لقوه جميع هرت مجرين حتى شرعي جربة مواتو شرعي جري لها مواتين تصومالي قبل وقاعدين هي بعد سبب لو ما قرن أنت دقيقة كوبية طبعا كوربين تلاقي حدا عاد سبب لما جايين حتى شرعي شقين أيوه شرعي هرا الله تنتي ينا كدالني ينا أوران شرعي يعني إن ما أنت عينه كهذا الله جدي فلنت شرعي الله مريين ما أنت كهذا الله معها شرعي مواطنين تلقولتك مية aan jirin baa iyaga labtoodana qabtay shalay way soo taagnaayeen kuwan maanta aynu leenahay sharcigii ma loo adeegsanay kuwii shalay fadhiyay bay hadda maanta ahaayeen markii muwaadiniinta la gurayay ee guri kasta laga soo qabtabanayay hablihii Quraysheed gobol kasta ka soo jeediyay mas'uuliyiin muwaadiniintii kale deegaanka Addis Ababa la geeyay way soo fadhiyeen hadda sharci ma jiro horena u jirin imikana uma jiro sifa sharci waafaqsan hadda aanu maanta ka hadlamayo ma aawo wadadii ay mareen ay dadka ku sameeyeen baad maanta iyagana lagu qaado taas ka hadal mare laakiin maanta waxaad moodaa shacabkii deegaanka ayay mustaqbalkiisii laga sugay maanta si shacabka Soomaali galbeed looga badbaadin lahaa tiyo marka horeba badbaado badan ay u baahnayeen haddana dhibaatooyin coronavirus covid-19 uu dunida saameeyo maanta ay u baahnayeen sidii looga leeskaashan lahaa يعني لقعمها على إسقاطنا لهاي لو كم بدو بلا شعب كديجا كلو بدبادين لها ما دام أنا ما تقول قلب لو بدباديو ما أنا أقول سدي يعني قلب لو سمين لها إيميلو لو سمين لها بشيء لو عيقين هاي يعني لو لو تفحيد لها ما دام مضلكي جودها بوصاق لا عد لهم ما تويا لو ما كستنا ويا لو أي ما أنت هاي إن لا يوضح هذا كحوم هاي إن يعني شعب كبير إن ما أنت هذا مسؤولية الصومالي كبير الدنيا كهجامين إن ما أنت هذا تشودي إن ما أنت هذا تشودي وضع inay maanta hadda dushoodii shacabkii dulmanaha masaakiintii baanaha biyelaanta abaaraha tamar darrada intaasoo dhibi ay haystay in maanta haddana kubad lagu dulleelo horta runtii waan ka xumahay waanin sorryna waan leeyahay guud ahaanba shacabka Soomaali galbeed ay ogaadinayso sorry baan leeyahay arrintaas idimay qaban meedaan mudnayn maanta in sidaa la igu sameeyo dushiina la suuqin qabsado meedaan mudnayn maanta hiil baad u baahnaydeen hiil walaatin ma u baahnaydeen hiil caafimaad baad u baahnaydeen idinku marka horeba hiilalku ay farabadnaayeen midna waa la yartaa iga qaal hada beel baan doonayay inaan yar garan waxa uu daleeyay igana dulqaata igamadan baranay inaan beeraha qaar aan weeraro hadda ahaantii waan ka xumahay
deegaanka la degta Soomaalida dad Soomaali galbeed baa la ogaadeenaya mid bay ahay laakiin maanta mushkilad baa jirta war beesha markaan carabka ku dhufto beesha ogaadeen la leeyahay runaantii waa beesha ugu badan ee dhibaatadu hore ay u soo food saartay kuwii la soo bahdilayay la soo jirdilayay la soo xidhayay la kufsanayay wax walba lagu sameynayay ee istilay hada ogaadeen bay ahay ama oo inay ahaadaan ama dawladda ha ahaadaan ama shacabka la xasuuqay la isku dul dhacay labada dhinacba dhibaatada soo gaaraysa hada ogaadeen bay ahaayeen maanta haddii ogaadeen inta godob laga galay Soomaali gobol kasta ay ka dhiibtay aniguna aan dhiibay aniga iga la hadlay aan kamid ahay dadkii dhiibay aan kamid ahay oo dadkii aanu cid baan ka soo jeeday meel ba ku aftirsaday runaantii Soomaalida qabiil oo gobol kasta Soomaaliyeed laga dhiibo oo maanta beesha loola harin waxa loola haray runtii hore aanay u jirin oo dibtu ay soo gaadhay oo dhibaato badan soo gaadhay deegaanka Soomaalida soo wada gaadhay laakiin dibta ugu badan ay beesha ogaadeen soo gaadhay war maanta haddii shalay toole aad soo marateen oo aad soo baabaadeen oo aad ugu meysay qoriisu kindiyay oo wax walba isku soo sameysay war maanta ma mudna idinka yeeli mayna maanta inaad hortayada beeshii dhamayd inay laba dhinac inta u kala jabto ay يعني ميديا يسوسو فريستانو هلكا iska aslagaadiyano oo ay soo fariistaan beelaha walaalihi maanta mumudne war maanta waxa la idinka baahnaa Soomaali maanta dushaas idinka daawanaysaa waliidina yaabay war maanta waxa loo baahan yahay sidii looga shaqeyn lahaa midnimada beesha ogaadeen anu qaabka kala ma gabaray caawan soo bareeray oo marka media waxa ka socda markii aan arkay runtii aniga way intimi weydo imana qabato hadii jeerna waxa ka shaqeynay shacabka walaalaha Soomaali galbeed ee ogaadeen sidii aanu midayn lahaa baan uga shaqeynay waxa la ogaaday maanta midnimadii iyo walaaltinimadii shacabka ee ogaadeen iyo maanta inay iga soconayn bay ogaaday ayaan ogaaday ilaa aan ka shaqeeyo midnimada beelaha beesha ogaadeen lagu raad sidii ay isugu keeni lahayn walaaltinimadooda wanaagooda waxa su'aashooda lagu shaqeyn lahayn ka maanta xilka hayana waa nin beesha كيشرنا نبيشابها قدمنا نبيشاوي والمانت واحد اللي ذيك بهاي هنا تكبر أهم تلقود أكثر مثلا ومركا تلقود لهلو ولا كلمة بيش وقاعدين لهلو وذي شركة ذي واحد عايش هذا لهلا بقى خلصنا معرق البيت لهني كلا وقاعدين لهني كلا والمانت إذيك رموز مدير الداب كذي ذيك هي الصوماليين هالكات ما تمرتها بمريانو هدي أساس وكلا قاعدين الصومالي ذيك لنا وحي إما نسا إن لا يسكر قاعدة شرب يورايس وكلا قاعدة يورا ميديا يسوفر by maanta ay noqonaysaa war maanta waxa kale oo iyaga laftooda gurmad u baahan beesha ay si xasuuq ku socdo gobolka City ee Cadoofe iyo Cadeyta maanta gurmad u baahan iyaga laftooda in loo hiiriyo maanta iyaga gurmad u baahan oo maalin walba dhimanaya horena u dhintay oo sanna inta mustafilka waxay maanta ay u baahnay in loo gurmado la garab istaago inta ay u hayay xasuuq baa ku socday dhibaatooyin baa beesha ay iyaga laftooda ku socday marka waxaan dooran lahaa wartalkay ogaadeen halka maanta idinka fidaya maanta ma taagniidin hankiinu hadda afaan dilnay reehebel waxa laga shaqeeyo midnimadii walaaltinimadii beesha ogaadeen dhexdeeda warunta dad la soo sheegay Ahmed war mid walaal hadii aan runta la soo sheegin Ahmed run la sumeeyo waxa la isugu yahay ayaa wax la isugu yahay in wax la isugu sheego wixii wanaaga la isfaro halkii wax ka qaloocan yihiin in la saxaba maanta loo baahayo inaan isku kiin daawano oo hortayada hadda shalay marinayeen maanta anigu hadii dadka kale Soomaalida kale ay idinka yeerayaan inaad isku jabtaano media soo fariistaan ismarisaan anu shakhsiyanka kulimba ahaan waxa ii cuntamaya maaha waxaan yeelayana maaha waxaan oran waa talkayo in badanna waan la hadlay inta aan guntay ka talantay inta guntiga deesha iskaga xidhaan war midnimadiini walaaltinimadiini halaga shaqeeyo weyn ognahay in gobolada qaar jilib ay isku haystaan dhulbeen ognahay dhibaato dhaxtaagantay qoriyo isku haystaan been ogyahay wad ogtahay dhibaatada deegaanka qabyaalada maanta taala waa la ogyahay war maanta hadee idinka middaabkeedii hay'adeedan maanta aydan ku soo dabaalin midnimadii aydan ka shaqeyn dhexdiina midnimo Soomaali galbeed ay ogaadeen iyo helmaya cadaway nagu soo foolay Itoobiya maanta doonaysa inay nagu soo fadaxdo doonayso dhulka Soomaali galbeed ay maanta deegaamiis ay ku sameeyay taabal doonayay waa maanta hal midoobo oo isbiishay ogaadeen thank you very much for that halna halana daaman hawa beela udan lahan xaraf ku dhintay runtii naxaybiga ma aha
xumaaniga ma aha laakiin wax qaldan aan arkaya sheegaya media ka socda inta la soo fariisto laba beelood yani ama xil hayaan ama yahay in la soo fariisto gobolada dulmana waxaan leeyahay la dulmiyay ee dhibaatada iyo cadaadiska iyo agajuuleynta lagu hayana hal laga daayay baan leeyahay inta midida daabkeeda haysa. Thank you very much. Thank you too. السلام عليكم. السلام ورحمة. magacaaga meesha naga soo wacay isku bilow. walaal waa wiilkii markii hore idin kala qayb qaatay Cabdinaasir weeye arrintan odayaashan ugu soo noqday oo rabaa inaan idin kala qayb qaatay aad baa ugu mahadsantihiin horta barnaamijka sida fiican dadkiina. Tijiga joogtaa miya? Okay, go on. odayaasha khayranas iyo wax jira iyo wax xaqiiqo runa bay ka hadleen ma garatay saxaye waajibaadkii iyo wixii shaqadii looga fadhiyay dawladdu way dayacday runtii 100% rajadii iyo markii wixii la lahaa markuu Mustafa imaanayna aad iyo aad bay uga liidataa marxaladda hadda uu deegaanku marayo ninkii walaalka iga horeeyayna runtii aad baan u salaamayaa inkastoo uu beel gooni ah uu dhiirigelinayna midoobaan laakiin si broadly inuu u fikiraa Soomaali oo dhan aynu midaynaa kasii muhiimsanaan lahayd waxaan ku dhahday arrinta aadka dadka la yaabka sii keenta waxa weeye miisaaniyadda deegaanka iyo dhaqaalaha deegaanka oo dhaqaale runtii fiican oo dadka haddii si fiican loogu maamuli lahaa wada gaari lahaa meel uu qabto waa laaya midda kale dawladdii hore waxyaabaha cajiibka ah dawladdii hore iyadoo dhiigyo cab ah shilinka maanta akoonka dawladda ka soo baxa ama musuqa u soo baxa ama si saxa u soo baxa suuqa waa laga dareemi jiray hadda laakiin lacagtu meel alla meelay marto war looma hayo suuqna ma soo gasho inta ka soo baxda allahumma inta ka soo baxda kaliya waxa weeye inta kuwa mas'uuliyiinta ay guryaha magaalada waxaan ku raacay kaga dhistaan oo badnay waliba ashqaas la garanaya right okay marka lacagtan ay dawladda federaalku soo dirayso ee loogu talagalay in mashaariicdii iyo muxuu ahaa shaqaale loogu maartay mushaarka shaqaalaha haddii aynan shacabkii soo gaaraynin oo lacagtan ay meelo kala marayso dawladda federaalka Itoobiya ma lahan miya audit la xisaabtama dawladdan iyo maamulkan oo soo saara maxkamad ka weydiiyana lacagta meesha martay Ahmed Shide oo wasiirka finance-ga muxuu qabanayaa asagu mise qayb ka yahay boobka iyo dhaca ka jira deegaanka runtii horta dawladda federaalku audityo way soo dirtay 2 jeer hadda intuu Mustafa uu maamulka hay 2 jeer baa la xanibay maaliyadda deegaanka لحنبيه هاي لaba jeer ba mid kasta la xanibay oo markii dambe loo sii daayay de hadana sidii adii ay maxaan ku raadayay ninkii adiga ku xukumayay aad lahayd adigu wax ku qabanay adigu kaaga dibnix waayay de Highlandiga iyo dadka aanu aragnaba inay nahaystaan waxba arrinta ka qaban maayaan iyaguna dantooda bay ka raacayaan nin walba meeshan mutual interest way waa la isku danaysanaya right okay and understood aad ma soo arrin kala rabay in la wadaago oo arrintii COVID-19 ka jaamacadda Jigjiga ayaa waxa ay sheegtay maalmo dhow inay soo gaari doono qalab lagu baari doono maalin kasta ilaa 246 qof lagu baari doono oo mar dhow ayuu soo gaari doonaa qalabkaasina hadii qalabkaas yimaad coronavirus ka lagu baari okay haye jaamacadda dadasatay uuna soo dhow yahay bay hadda maanta page-kooda ku shaacinayeen marka haddii uu qalabkaas yimaado insha Allah wax fiican ayuu naga saaciidi doonaa hadduu yahay ardaydii jaamacadda America mise waa la fasaxay jaamacadda way xiran tahay may jaamacadda waa la xiray jaamacadda hadda muddo bil ku sii dhoobay bay xiran tahay markii cudurku saad wadanka looga helay waa jaamacadaha dalka oo dhan waa la xiray waa la kala tagay aad ma sida walaal Ahmed walaal walka ha ka bixin raalaado raaxib raalaho aye walaal waxaan rabaa wax yar oo wacyi gelin ku siiyo insha Allah haduu Ilaahay raado maanta Jigjiga waxaana loo sheegay inuu qof ku dhintay oo uu dhintay cudurkaasi Jigjiga ma qofku arsabo weyn Jigjiga ma
أنا أتسوى الموديل لكن ولا الواحد جرت ما دام أرضي الجامعة هذا تهاي تكون أدجارسين كرتو هذي لعل دعنا وقف كل أنت ولا قوني الله آسا يا جرتا وسي معناها سبيشال الله آسا تتبع الله قبان قابية تدكو موضة تجو إن حتى قاب كل وجود كنا يوقاب كلوية ولا معناها هالكاسيانة كإيمان إن تدكو أي عذرك سكوت دارتان أنت اللي يراد أنا دقيا هبل بعد دقيا أنت اللي يرادو تدك كلا ولا ليان لا إفكت جرينين أنت أصلا تدك جارسية وعيقل أنت قدر إن شاء الله ولا دو إلى يرادو وأنا ما صنت ولا الله سمعنا إن وحي كران كنا لكن إبكو حكتي رابع ضد كنا إن الأديار قروبين بينه وحنون كان رزقي سولي هاي أو noloshoodii caaliga ah ay iska wataan meheradihi sidii ay u furan yihiin sida la isu salaamayo qofka xitaa even haddaad salaam weydo lagu dhahayo maxaa ii salaam weyday lagu dhahayo oo qofkii kugu cadhoonaya weli way ka dhacday london way ka dhacday markuu kow bilaabanayay way ka dhacday arrintani salaanta xaqeeda in la yiraahdo maxaad ii salaami weysay laakiin eega waa la kala cararayaaye insha Allah Allah idima gaarsiiyo insha Allah Allah idima gaarsiiyo hal dadaa waa ma santa walaal okay عامل هذا وكذا نروح كسر ويانا كل نروح الله ويانا right okay 1 second أنا لو بنقرأ شجور كيف أحمد وكارو ما شجور نقول منه أحمد بكسر أحمد سوء عندنا waxay rukaani hal telefoon baan ka horreysiinayaa Cabdulqaadir saddex telefoon waad maraysaa fanidugad from London ku soo dhawow waxaan ka hadlaynay barnaamij caawa waad la socotay barnaamijka mise waan kugu celiyaa waxaan ka hadlaynay muxuu la socotaa sida maartay isbeddelkan iyo sababsigan muxuu ahaa madaxda ugu sarreysa iyo xilka qaadidan ma loo maray sharcigii sidee wax u jiraan what is going on welcome ku soo dhawow aragtidaada wallahi aad baan idin salaamayaa de horta salaamullah kan xilka qaadida waxa weeyaan de markasta awalba qofka xilka waa laga qaadi karaa qof kalena waa loo dhiibi karaa inkastay habboonayd in sharciga loo maro sida sharcigu yahay taasaan ka odhanaya oo xilku waa wareegto ka kale waxaan hadda u soo galay inaan ka hadlo tii odayaasha صح okay horta odayaasha deegaanku hal waqti bay hadlaan waqtiga wax loo soo dhiibay hadlaan right okay wax loo soo sheego laakiin waqti ay dadkoodu u baahan yihiin inay u hadlaan ayaa jirta oo fara badan laakiin markay dhibaato jirto inay hadlaan waa muhiim marka hadda dhibaata dhacday hadda way hadleen sababtoo dhibaata hadda soo korodhay marka hadday hadleen dhibaatadii ay tooshka ku daareen waa loo baahan yahay runtii in la ogaado dhibaatada meesha ka jirto dhibaatooyin badan baa ka horreysay axmedow dhibaatooyin badan baa ka horreysay ma garatay wiil yar oo warsamo la dhaho ayaa xidhan oo dadkii cabdi maxamed cumar la xidhay oo ilmo yar ah oo 16 jir ahaa deegaanka madaxdoodii baa xadhan kamay hadlin 13 jir buu ahaa maanta waa arrintaas kamay hadal khaladaad badan baa jiray oo xagga federaalka kama hadlaan mar alla cabdi bay eedayn mustafa ay eedayn kii ka dambeyn bay eedayn iyagu kolba federaalka kii jooga ayaa ku soo shuba kaasay u hadlaan laakiin deegaanka ma matalaan mana u hadlaan dhibaatada dhabta ee ka jirta deegaanka waxa weeyaan bahjadka deegaanku waxaa xidhay ina siduu u xidhan yahay isagaana qaata deegaankuna isagu u agduuban yahay siduu rabana isagaa ka yeela kama hadlaan iskama qabtaan kursiga u fadhiyo waa kursi Soomaaliyeed waa dadkii deegaanka maanta matalayay ee ummadaas 12 matalayay u hadlayay iyagu kii ay ku qanacsan yihiin ay doortaan ay u arkaan maslaxada ummadda inuu wada ayay geysan karayaan right okay ina shiday u hadlayaan isagaana ku soo shubta markuu deegaanka isagaa qasa sidoo raba ka yeela isagaa tanna qasaya tii horena qasoo riday tanna ridayo qasaya markuu isaguna hadloon bay hadlaan right waa aniga fikirkayga xorba u taa fikirkaaga waxaan aaminsanahay in dad la qabaan laakiin kolleyba odayaashu hadda markii aan dhegaysanay waxyaaba maartay dhibaato jirtay ka hadleen waxaa ka mid ah in muxuu ahaa Ameerika ka baxay oo 20 meelood waxay rukaadeen 20 meelood dad lagu dilay waxay kaloo sheegeen in 20 bilyan oo budgetkii lacagta deegaanka ahayd meel markii la yahay
marka waxaad leedahay kama jiraan miya ha weydiiyaan ina shide iyo federaalka ina shida madaxweyne kama deegaanka madaxweyne waxaa ka mustafa in la xisaabiyo weeyaan mustafa hadduu madaxweyne ka yahay mustafa waxa weeyaan haddii bahjad waddanka la keeno way ka muuqan lahayd right ووزيركي مالية ده أحمد وينا هذا كيس العلم قبل هذا كقرب كاوي كنت حنتاي هذا وشاقي بهجتكو إنه حاجة كورة كحرية إنك سيدي لما وحين قبل طيب وفضل عنك وإنه إنه مركو فضل عنك وحين كسود أحسنه وشي ديجان كقلبنا مركا إنه قاعد نصحنه صح لكن وشي أفضل عنك إنه قم قد لأنه وصل قربنا فضل عنك بكليين واي ديجان كان إسكال أيام معمولة ديجان كيسة فكر كاغا وسوكوب والله لأن أضياشون حق يقول نصيب مركز نسوي قاعد فدرالك وأي دهان قانك يجعله كرسي جنا يجا شعب كان يجا واحد كذا أضياش إن أي ليهين يعني كلبلاك ديجانك ويبقى باور كليهين لكن إنه مركز كوسو شفت أي حلان وقالت وليان أضياش تجيب يسكون نقدان waxay naga maqan federaalka inaga jiraan federaalka waxa qaybsan loo doorano inuu shaqada iska qabto isaga iska warkeenay jabadiya dawladda kolba dhanka Soomaaliya markay jabadiya dawladda isku xiwaayeen ayuu dar xisbiga xiriisi fidna keenu iska horkeenay aad ma santahay السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما وين السلام أقول يا ريت شو داول السلام يس أهلا فضي واحد سؤال ويدين لها ما هو يكبر عليك كده السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله هرقل فاطمة from London هرقل سيد وارتا سبقفسيغان دولة دقانكا iyo xilka qaadida Cabdi Caadil waliba lagu weeraray xafiiskiisa siyaad kula muuqata welcome kusoo dhaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نورت دمان والسلام هيا inkastoo siyaasadda hadda in laga hadlo aynan habboonayn oo cudurro xunxun oo fayrista uu socdo dad badan ay dhimanayaan dadka horta Allah u gargaaraan leeyahay dhammaan ummadda dhan Allah caafiyo dunida maartay cudurkan fayraskan COVID-19 uu faraha ku hayo laga Allah lama soo gaarsiiyo dhammaan ummadda dhan Allah caafiyo niyahow iyo intii dhabatayba Allah u naxariisto niyahow horta waxaan u arkaa ninka mas'uuliyadda laga qaaday كشعب هان أنا وعبد هاي إلى كلاتهاي وبونتي كلابات أنا كل شيء إلى تهاي وحاجة على لها شعب كالصوماليين يقول شيء صومالي الأوغارية أما صومالي قلبيد أو كيلا مدعيه ومدن هرت وحلم مفهن سنة حلم مؤغة تلك وحولية قيرات آذية تعض الضغم قاربة بناك يالا wadogta gobolka Afdheer hadda gacanta lagu hayaa oo lagu hayaa dadka waxba lama socdaan xitaa korontooyinka la xirhayo tubooyinka la abaabulahayo umadkaas oo shaqaale kale oo Itoobiyada kale ayaa sameynaya wax magaca Soomaali sheegtay hal wiil oo injineer ah kaga jira walaalow anigu waxaan ilahaa oo aniga la kuman dadkeena inay kor u fakaraan siyaasaddan la isku haystaysana maaragtay ii sheegeen aga dhulka loo dhigo la heshiiyo ummad hal ah in cabsarna inuu ku dadaalo hadduu sii joogo inuu ku dadaalo sida ummaddan Soomaaliyeed maaragtay dalkan ogaaday ama deegaankan ogaaday u dhalatay qabiil kasta ka kooban wada degan Soomaalida ah Soomaali galbeed in la mideeyo oo hal laga dhigo oo nabad oo qabiil la maartay nimanka hadda waa artay social media ku maartay ma doonayna arab ku dhufta qabiilada laga hadlay laakiin reer hebel iyo reer hebel waa dad walaala waa dad isle waa dad wada dhashay waa dad aabiyo hooyo wada dhaleen dad meel kala tagaya ma aha xukunkada berri buu dhamaanaya marka anigu waxaan leeyahay horta ummadaas in la mideeyo hal laga dhigo ummadda Soomaaliyeedna iyadoo isku duuban odayaal iyo xukuumad iyo dhammaan iyo jabhadda ololafna la wada raadsan xaqi dalkan ka maqan وأنت وطرف عن ويان لكن وما موقت ضد مدوبي وما موقته نقول بنك كلا أيوب بقنت جوينيا هدي أنا نقول من دستور كي شرعي كلام بينتي وعين معمل خبوص الرئي وحيل كادي معمل خبوص الرئي عين مرين دستور كي وايو وعنص عنا محوها إن بسلقها محوها معتوية بروتوكول كا وحرية هاي
waxaan la soconaa nin kaloo maxamed curaad la yidhaahdo oo isna muxuu ahaa la taliyaha xagga miidiyada in isna la xidhay waxaa kaloo jira nin kale siraaj la yidhaahdo oo gurigiisa loogu dhacay oo ciidan loo diray oo maaragtay hadda baxsadoo dirdhaba jooga marka haddii madaxdii ugu sarreysay aynu ku dhaqmayn sharciga sidee marka soomaali ku midoobaysaa see loo midoobayaa markaas wallahi anigu waxaan dhihi horta nin soomaali sideedaba waxa weeyaan waxaa la yidhi sidee xeegan loo xigtaa ilka u wada nabadgalaan horta nabadda markasta wax ka wanaagsan ma jirto waad aragteen waddankeena hadda dad badan iyo qabaa'il fara badan baa nin walba meeshuu deganaa intii wada deganeed baa isku haysataa صح anigu soomaaliyeed waxay iska rabtaa waaban garan lahay dalku waa ka wayahay waddanku waa ka wayahay ummaddan soomaali galbeed waxay iska rabaa anigu waaban garan lahay waxa weeyaan walaalo anigu waxaan leeyahay maabahaana ogaadaya u qoran yahay waxaan leeyahay horta siyaasiyiintan isxirxiraysa wakti siyaasad horta laga hadla hadda ma joogtay wakti la isxiro waxay ahayd waxay ka gaabiyeen shaqadoodii waxay ahayd ummaddan covid-19 waad aragteen adhisao dad baa ku dhintay baa laleeyahay intaasoo xanuun baa laga helay waad aragteen madaxda oromiya waad aragteen mucaaradkooda iyo maxaafadkooda inay bulshadooda social mediamka u taagan yihiin ay wacdigelinayaan waad aragteen madaxdii maaragtay axmaarada xabashida mucaaradkooda iyo maaragtay ii sheegeen inay wacdigelinayaan shacabkoodii wala inaga kuwaa maxaa inaga duway inaga dadkeena maxaa loo wacyigelin lahay dadkeena waa iska jaahiliin waa masaakiin waxba ma oga sida iskaga ilaalin lahay covid-19 cudurkan maaragtay adduunka wuxuu ku hayaa xanuun maaragtay halis buu ku hayaa dad badan baa dhintay UK talyaani waa aragteen China waa aragteen America yesterday ku qof baa dhimatay waa maasan tahay runtii walaal heede nimankaan kalaato inay wacyigelin guud la siiyo siyaasadan talaatana sida loo wado inaa cagaar dhulka loo dhigo mas-uuliyiinta la soo daayo ummaddan talaata shacabka soomaalida ogaaday ama soomaali galbeedna budgetkii ay xaqa u lahaayeen ee ayagu isku lahaayeen electri ma laha biyo ma laha way gaajaysan yihiin way dhibaataysan yihiin inay waxooda la siiyo oo dowladda Ethiopia budgetka ay soo niibtay waxooda ceero loogu qolo biyo loogu qolo tabridaar laga qolo dhagax buur laga qolo goday laga qolo jigjiga laga qolo biyo gelin loo sameeyo wadooyin loo sameeyo dibudajin loo sameeyo reer guuraaga la dejiyo beeraha sida loo furta loo sameeyo maaragtay dad xalaalo laga dhigo waddanka budget buu leeyahay badrool buu leeyahay xooluu leeyahay macdan buu leeyahay shidaal buu leeyahay ummaddan wiilashan yararka ana maaragtay inta jaamacadaha badrooli la baro si ay bahoolka uga shaqeeyaan maaragtay waddanka laga dhiga waddan xaraam oo waddan dhaqaalo leh mayfaatay waxa weeye Ethiopia adiga haddaa isxagrato maxay qaban kartaa taani nabaddan lagu hayo jologaaneen baa dal laga soo daayay dee jologaaneen Abiy Ahmed baa fasaxay waddan ka soo daayay rajiimkii hore Ethiopia ayaa dadka layn jiray rajiimka kaata asiga dadka daayay oo laynaynin saa ha la ogaado taani markii mas-uulka la eedeynaya xitaa ila agtaadii la eedeynaya ayadu waa ceeb ayada social media xukuumadda waa la eedeyn karaa waxay ku xuntahay waa la sheegi karaa waxay ku fiicantahay waa la sheegi karaa laakiin ceydii aflagaadadu waa ceeb qabiilku waa ceeb qabaa'ilka ayaa la isku dirin dadka waa walaalo taani reer isaaq iyo reer cabdullahi waa ummad wada dhalatay laga daaya ceebta aad wadaan social media nabadda iscaayahayow cabdullahi iyo isaaq waa hal meel loo kala wada ma jirto waa wiiliya abtigii way wada dhasheen adeer siyaasiyiintu hadday isqabsadaan iyaga jirtaa laakiin annaga dadka naga yaa la isku dirin ummaddanada waxaa loo baahaya in la mileeyo farkileeta laga dhigo xukunkan berri hadduu dhaco dadka naga miyaa la isku dirayaa dadka naga waxaa bad ka soo daal waa dhibaato ka soo daal waxa la isku diro oo la isku qooqiyo taban looma hayo ummadda soomaaliyeed 11 gobol ee kilka waxaa la doonay in la mileeyo farkileeta laga dhigo siday xaqooda u raadsadaan ma ayna ummadda qabiil lagu kala dilo social media nin darafsan gurigiisa talaagada iyo cabitaan lagu jiro intuu soo galo dadkeena walaalaha ee masaakiin la isku diro la yeeli maayaa laleeyahay soomaali galbeed hamidoodo runta cad bay kaadaysaa laakiin waa topiga kuma salaysana fikirkana qayb waqtigan waan ugu dheeraaday waxaan rabaa inaan anigana waan odayaasha waa dhegeysanaysin hadalka odayaashan hal qodob ka hadlaynaa kadibna waxaan u gudbaynaa qaybta dambe ee Jubbaland oo aan soo gaabinayno nusaac ka yar aynu ka hadlayno haddii aan ku bilaabo Ahmed
نحن كان عادي يسوى على بدق الرالي هذا واحد الرالي هذا أحمد السلام عليكم جرماني السلام عليكم عبدي from Germany aad iyo aad baan ku salaamayaa dhammaantiin mudanayaasha meesha ku jira iyo waxa weeyaan shacabka idin dhageysanayaba salaam allah hore u gal barnaamijka hore u gal si aad kula muuqataa isqabsigan madaxda sare isqabsigani waxa weeyaan kulli waa wax la isu dhiibayo weeyaan waana wixii Ethiopia hore uga soo jiri jiray weeyaan waxani waxa weeyaan dadkan ka daata shacabka ah lagu daarinayo weeyaan wax ummadda shacabka ah lagu kala jabinayo weeyaan wax ummadda la isugu dhiibaya weeyaan ummadii nabadda ahayd ee duubnida ahayd baa la doonayaa inay bartanka lagu dhufto maanta waxay taagan tahay labadii aabbaha iyo hooyadu ay wada dhaleen ee waxa weeyaan jarar iyo waxay taagan tahay maxaan ku idhahdaa iisoo sheeg ama nogoba ama qorraxayba ama maxaan ku idhahdaa wixii la mid ah right dabkaasi meesha uu ka kacayana waxa weeyaan waa Ethiopia weeyaan ma aha dadkan kadaata shacabka ma ahan waxa weeyaan dhibku meesha uu ka kacayo ama waa Ethiopia ama waa waxay samaysatay oo iyada ku hoos nool right Ethiopia kan marka hawshii fulinayay soo saw dambiile ma inaan mar walba eedayna Ethiopia ma aha waa inaan inagu is eedaynaa oo ayna qaladkeena sheegnaa شلي وحين وكع عبادين عبد ما عمره وحين تقريبا كل أحمد الداني كان وانين كادر إلى طاعة أيوة وكيس سيدو إليه أو نعرف مية تاي صحيح واحد إنه إنه مسؤولية دين قادنا وياه ما كان مثلا هي مسؤوليتي أما ها مقعوضة أما هم مقعوضة محوها تقريبا يجا خلط كود إنه قاتان وياه لكن إنا نروح كلام مسؤولية دي صارنو أو إنه نحنو حاجة صارنا لقى معمولة يا oo maartay inuu isku keendiraya ma ah waa inay mas'uuliyadooda qaataan hadduuna dalka xukumi karin waa in iska cajilaa daas habkaas wax looga bixi karaa goon engineer horta aan isfahanno صح meeda aan kala hadlayo waxa weeyaan kolkii aan Ethiopia cuskanayo Ethiopia ilmakeeda mooyeen horta ma keento shakhsi Soomaali maxaan ku idhahdaa muwaadin caadi oo Soomaaliyeed marnaba meeshan ma keenad okay waay haye waa iyadu ilma ay dhashay oo ina xamashi oo canjeera xamashi lagu soo koriyo awow lagu soo koriyo in sabadiisu meesha uu ka soo jeeda ay ogaatay bay horta meeshan keentay waa ina girna la gordhi iyo ina baqalata dhasa waxa horta meeshan yimaada ayaa Soomaali horta nologa dhigin okay goon ninkii sida ahaa iyadu hore intay u soo buunsha bixisay ay salkiisa ogaatay ee istirikan kadata kula dabaalan karo oo wixii maxaan ku idhahdaa aad basbaaska wada qooshan kartaan kii noocaas ahaabayno inagu waxa weeyaan jirkii wuxuu leeyahay Soomaalida af Soomaalina uu ku hadlayo arbeynu gudbanaynaa oo odhanaynaa waxa weeyaan nin Soomaali ah ku fadhiya maanta kursiga right ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa weeyaan kala fadhiyo iyo ka maxaan ku dhahdaa sababa fadhiyo iyo ka ay keensanaysa jigjiga waa masahay horta labaha u arkina ila oo aad ka arkaysaan waxa weeyaan idinka oo shacab ahaan ama maxaan ku dhahdaa ummadda Soomaaliyeed shakhsi ay xorriyadeeda iyo waxa weeyaan iyadu danaheeda ay ku soo doorteen ilaa oo aan ka gaadhno waxa weeyaan oo waqtiga maxaan ku dhahdaa isbedelka oo alla ina siiyo isbedel baa yimid waxa weeyaan waa kii horeete ee maxaan ku idhahdaa dabka ahaa iyo ku ruumada oo waxa weeyaan iyadu ay wadato weeyaan right okay marka sidaa darteed kolkii aan ku leeyahay Ethiopia waxaan ka yimaadaa ciyaal ay iyadu noo soo dirsatay oo ina girma walda goordhaan baa meesha yimaadeen shakhsi horta Soomaali oo nu garanayna meesha ma yimaado حاجة هدي أنا حاجة معناها نبكي إثيوبيا كسر عن دين شيء. Right. ما يناقر إلى جرمها أنا ضدك ويانا سكة لوقا المجا حبشي وياه. ومجا حمشيات وحويا نكي أنجرنا إنه بجرما يا بقالي يا تعدسي يا وحويا ولدي يا وحويا فسها يا ومجا يا ولا بحان محن كنا غير ريفر عنكري. Right. Okay. Somali ده فراعين طب Somali ده هاي إثيوبيا waan fahmay boontigaaga Ethiopia faraacin kama soo jeedaan Soomaalida ka soo jeedaan maartay hawshooda u fulinaya baa meesha la keensadaa oo la soo hubsaday ilaa inta aan ka gaarayno inaan inagu ruux dooranno oo aynu rabitaankeen uu ku yimaado weligan kama baxayna in la isku keen dhiibo in lagu adeegsado ummadeena in la baabiyo hantida in la boobo in budgetka la boobo in muxuu ahaa kolba nin maartay la bahdilo la xiro kama baxayna weligan waa I agree with you soo gabagabay wax yar
ninkan axmed oo laba dhowr daqiiqo si arrinkiisana ha soo koobo waa nin abqari oo fiican laakiin fikirkiisa ha soo koobo صح waan soo koobaya insha allahu tacaala waan soo gaabinaya dadkana waqti baan siinaya aniga lafteedu muddaan idinku soo celcelinaya waxa weeyaan dad kaleeto idinku jirana waan ogahay aniga oo xaaladaha ka degdegaya kana maxaan ku dhahday waxyaalaha igu muhiimsan idiin sheegaya waxaa jirta dakhligan Ethiopia la leeyahay waxa weeyaan maanta waxaa laga leeyahay wadanka gudihiisa nin baa tuug ahaa wuxuu yidhi dhowr nin oo tuug ahaa reer habeen soo martiday waxaa kolka la dabcay sidii maxaan ku dhahday reerka kala tacaawo loo arbushi lahaa waxaa dhacday in maxaan ku dhahday la yiri war sidaynu u qaadanaa beerka maxaan ku dhahday hilibka iyo caanaha basaynu u qaadanaa waa saddex tuug baa reerka martiday marka waxaa dhacday inay raggii isqaybiyeen markii dambe waxa weeyaan waxaa dhacday beerka saynu ku soo qaadnaaba adigu ala kulli xaal la yiri toosh buu mid la orday toosh buu la orday oo qoladii wuxuu u tagay maxaan ku dhahday kuba dhaxda kala baxay tuuga beerkii loo soo diray oo mid tuuga dhaxda kala baxay marka tooshkii baa waxa weeyaan yuu dhaxda ka doondoonay kolku beerkii waayo wuxuu qoladii hilibka sameeynayay buu u tagay wax idinkana idinka yimid annagana aan soo gaadhin baa jira ma aragteen buu marka ala kulli xaal waxa weeyaan dakhliga Ethiopia ka yimid annagana aan soo gaarin horta meel qarsataa jirta ee waxa weeyaan yaa la oranin Ethiopia kama imanin right okay haye Ethiopia waxaan uu ka soo baxaa hadii aanu ka soo bixin lama magacaabeen oo lama soo shaaciyeen waxa weeyaan wax ku qarsoon oo ku dhiman doon noqon lahaa laakiin xabaan loo sameeyay baa jirta oo ummadda shacabka lagaga xasaysto mar walbana waxa weeyaan Afrika waxa fadhiya kii meeshan tadaata fadhiyo ee waxa weeyaan dakhliga ummadda laga qaado inta jawaana laga buuxiyo kolka dambeeto waxa weeyaan sida loo ururinaya xabashi maxaan ku dhahay lagu caawiyaa sidii hore u dhacday waa runta yes marka waxa weeyaan xoolahan kadaata aynu laanahay waxa weeyaan waa kayd loo dhigayo xabashi loo dhigayo oo la iskaga gabayo waa kayd la iskaga dhigayo maxaan ku dhahay islaanta sodohda waxa weeyaan kolkii ay maxaan ku dhahay dadka xilkii ay ka maqan yihiin yey hilib luqmada oo kayd hay sii sameyn jirtay nimankan kalaata kayd bay sii dhigaane kaydka ha ka furfurin waxa weeyaan waxay dadkan hidig iskaga dhahaan bay doonayaan inta maxaan ku dhahay oo xaaladdu ay isbedelaysay haddii kale dhugtay gelayaane horta kaydkooda isaga daaya intaynu waqtigeenu doonayna ka gaadhino sabir iyo iimaan iska yeesha shacabkaan u sheegaya right okay marka xaaladda sidaa tahay waxa weeyaan waxaan ku soo gaabinayaa arrimaha maxaan ku dhahdaa qalqalafsan ee Facebook gudihiisa ka socda iyo waxa weeyaan sida beelaha is haysto oo kaleeto war waxa weeyaan oo idin sheegaya oo arrintaas oo ila dhibaato iyo cudur badnaatay oo aanan arag sida meeshan oo kaleeto meel asaas oo kaleeto aan dadka uga waaniyo oo uga baafiyo arrinta waxa jirta war isku duubni baynu ku soo shaqayn jiray midna baynu ku soo shaqayn jiray laba qabiil ma ahayn war waxaanu soo maray xilliyadan maanta aynu ku jirro xilli ka xun oo ka fool xun baanu soo maray waxaanu soo maray iyadii oo waxa weeyaan waxaan joogi jiray meel adigu carabaha gudaheeda oo waxa weeyaan Saudi Arabia la yiraahdaan joogay waxaana soo martay dhalinyaradu inay tiraahdo ninkii waxa weeyaan qaaran bileedka aan bixinaynin aqalada tolka waxa weeyaan inuu seexdaha dawaadaba qoodhiyo waa uraya raggii sidaa odhan jiray baa maanta kolka u neekinaya waxay u neekinayaan maanta Mustafa Xagdar bay u neekinayaan oo waxa weeyaan ay keensatay hadda abdi ilaa taariikhdii walaha Mustafa Xagdar leeyahay awuu xamashi baa soo korisay kana awuu xamashi baa soo korisay right annaga midna yaa nabina looga dhigin midna horta sallallahu alayhi wasallam midna yaa looga dhigin waxa weeyaan rasuul la soo diray midna yaa horta looga dhigin xamashi kii tagayna xamashi buu ahaa kanina waa oran iyo waliba maxaan ku dhahay xamashi isku dhacay maxaan ku dhahay isku jira marka waxa weeyaan ummadda reer ogaadeen iyo intii aynu shaqsi nadiif ah aynu ka arkayno war isku duubnideenu tantadaata way ka badnayd war dhalinyaradii shalayto odhan jirtay waxa weeyaan shaqsigii aan qaaran bileedka bixinin haddii la doono duruufiba ay u diiday war mawaadin ma tihid odhan jiray war waxa weeyaan dabaqoodhi baa tahay odhan jiray war wuxuunan ahayn raggii ku suntu jiray maanta waxay la ordayaan Mustafa Xagdar baanu waxa weeyaan hor taaganahay war qofkii Mustafa Xagdar soo hadal qaaday waxa weeyaan ninkan kaleeto waa madaxweyne meesha macnaha ma kursiga uu ku magacaaban yahay waa madaxweyne wuxuu yahay ma jireen maadaama uu sidaa yahay dadku meel ay ka koraan buu leeyahay oo waxa weeyaan ay u eesadaan oo maxaan ku dhahay awal horeba ninna ma ay jirin oo Mustafa Xagdar ninna ma aqoonin war dadkii haddii uu maxaan ku dhahay albaabkii uu u fadhiistay
waxa weeyaan inta la soo qabtay magooga meesha loo dhigay hadda wixii ay ka sheegaan inay macnaha ka sheegaan wax maqti bay u leeyihiin madaxweynaha waa maasantahay walaal waqti baan nahaya waad maasantahay هذه أدبان دي سنوية دماتي. أوكي من لبض دقيقة odayaashii hadalkooda waa dhageysateen taleefanka ma qabanayo ino Axmed baan ku bilaabayaa Axmed Xasan ayaa ku bilaabay odayaashu waa dhageysateen laba arrimood bay odayaashu rees gareeyeen waliba saddex arrimood midda koowaad waxay dhaheen muxuu ahaa deegaanka nabadgelyo badan la'aan baa ka jirta oo 22 meelood oo dad lagu dilay qabiilkii iyo waxaa dib u soo noqday muxuu ahaa sabab qabsigii aad u soo noqday budgetkii deegaanka loogu talagalay Cabdiqaadir taleefanka ka hadlaysan budgetkii shacabka loogu talagalay 20 bilyan ahayd meel ay martay ma hayno waxayna waliba tilmaameen in lacagtu intay timaado dawladda deegaanka bangiyo kale lagu shubto waxay kaloo farta ku fiiqeen muxuu ahaa 25 degmo oo deegaankan lahaa in hadal haynteeda ay badato la rabo in laga noqdo arrintaana ay keeni karto muxuu ahaa isku dhac iyo dhibaato adu seel waragtaa muxuu ahaa eedeymaha ay soo jeediyeen odayaasha eedeymo valid oo wax ka jiraan miyaa mise waa sida ay fani sheegtay waa wax loo soo dhiibay odayaasha si aad kula muuqataa wallahi hadee dhibka inaa haysto waxa weeyaan haddii kii oo dhibka ka hadlana aynu dhahno waa loo soo dhiibay exactly kii dhibaatada wadina aynu isaguna dhahno dhib buu wadaa waa mashaakilka iyo daba wareegga iyo dadkeenu maaragtay meel suka ka fikirka ila meeran ku jira wey baryahan way socotay ama sanadkanba way socdeen corruption inuu jiro oo jiro hanti badan iyo lacaga la lunsaday horumar la'aan hadii way iska caddahayo weli mayna arag ama mashruuc la soo gabagabeeyay oo marka hore qabyaha in dawladdii hore mashaariic bay ka tagtay mashaariicdaas qabyada ahaa oo soo gabagabeeyeen mayna arag kuwa intii la bilaabay la dhameeyeen mayna arag midda kale waxa hadda aan aad ooga naxaayo wallahi aan aad ooga fikiraa ardaydii waxbarashadii waa laga joojiyey guryahoodii joogaan ciyaalkii guryaha joogay ma haystaan aalad ama xiisada laga bixiyo ama ay kala xiriiraan waa ogtahay meelaha kale gobollada kale ee Soomaaliya hatta dawladda ka jirin sida Puntland iyo Somaliland iyo dawladda kama jirto waa ogtahay maamulaha ka jira ardaydu waxay ku qaataan guryaha ku qaataan xiisadaha tan oo lagu leeyahay dawlad baa ka jirta oo hatta aan weligeed dawladdeedu ay soo dhisnayna ardaydii guryaha iska joogaan oo waxbarashadii waxbarasho ma jiraan ama wax qalab oo ardaydu ay wax ku bartaan midna ma laha marka waxa iyo meeshan wax iyadoo marka horeba ay waxan busta iska ahayd Ethiopia oo meel dhimatay oo dad maaragtay oo dilay oo adduunka inagu aynu Ethiopia aan ka hooseynay oo waxba ayna marka horeba ka ahayn haddana maanta xaalku meeshu maray waarta ama cudurkan iyo aafadan hadda adduunka haysataay ummadaasi dhibaatada ku soo waajahday ilaahay waan ka baryaynaa inuu ilaahay ka najeeye marka musiibooyin badan baa meesha yaala aqooyin badan baa yaala midan dagaalka iyo qabaa'ilaadka meelaha maran isku haystana waa aqli xumadii dadkeena weligeed ba haysatay laba la isugu diri jiray midna uu boolis ahaa midna uu on elef ahaa tiyo haddana un qaabaysan weeyo oo in haddana dhulkii oo waxba aan oolin oo kuwii horeba ay magaalooyinka horeba ayna biyo lahayn nal lahayn waxba lahayn haddana iyagu meelo xuno intay bulal ka dhistaan ay isku dilahayaan waa musiibooyinkii unbay kamid tahay un soo jiray weeye iyo dhaqankii gumaystaha dadka lagu mashquulin jiray lagu lumiyey kii unba salka ku haya marka aniga wax hadda macnaha ay kaaso ii leedahay ma jirto laakiin ilaa dadkana ay wax ka fikiraan oo ay wax ka gartaan oo aqli ka yeeshaan oo ogaadaan meesha wax ka jiro iyo meesha ay wax kaga maqan yihiin dee halaaga bay ku jirayaan annaga wax kale ma dhihi kare waxa weeyuun inaan dhahno ilaahay oo musiibada maanta haysta marka hore oon iyo haraad iyo cudurro kalaaba haystay ood ogtahay maanta waxaa ka dhacaya gobolkan Dooboweyn degmada Haarcad iyo ilaa Shilaabiyo wax ka dhacaya dad inay u dhamaanayaan suntii uu China ku daadiyay ayadoo kuwaas ay jirtay ayaa haddana musiibo kale oo xanuun ay jirtaa haddana dagaalo qabiil ay jirtaa haddana horumar la'aan iyo aafooyin iyo waxaad ogtahay hadda gobollada dadku Axmed oo aragtigeena kugu dheeraan su'aasha u soo noqo Axmed su'aasha u soo noqo odayaashu waxay yiraahdeen kaada wuxuu dhan sixir barar way laba jibaarmeen ama way afar jibaarmeen dadkii Waa maqlay. meel kale ka soo gelaya ma jiro marka ilaahay
ummadda waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu dhibaatadaas ka dulqaado ayaguna waxaa garteen bini aadamka ilaahay caqli buu siiyey garaad buu siiyey dadku culum bay leeyihiin odayaal bay leeyihiin aqoonyahan bay leeyihiin dadku intay fikiraan waa in at least ay horta bal wax fahmaan wax meesha ay wax ka jiraan anu intaasaan kusoo gabagabeynayaa waadna mahadsantiin okay mahadsanid جمال ما مقشان lagu maqlayaa هاي cabdiqaadir wuu galay gal adiguna oo 2 daqiiqo tuuro احمد هو كيف ma sawirada isku habeenaya hore u gal time ma jireen runtii waa waqtigu inagu dheeraaday fikirro fiican baa caawa la rays gareeyey waan ka mahad celinayaa dad badan oo si fiican u hadlay baa jira haddaan usoo laabto arrinta odayaasha runtii horta hal maa nasiib darro ah dhibaatada ina haysato waxaa weeye allah naxariistay dhoodaan baa wuxuu dhihi jiray kii runta sheegaba maxaa shabaqada sii saaray macnaha waxaa weeye kii run sheegaba haddii la dhaho inay hebel baa dhabar ka soo taabtay ama hebel buu ka hadlaya horta waa nasiib darro صح waddankan madaxweyne mustafa ka haddii uuna waxba u haynin waa inuu shacabka ola yimaado dhowr waxba idinma hayo ma aha nin la dhaho in la guddoomiye xisbi ama wasiir maaliyadeed baa ku dhegan wasiirka maaliyaddu awood uu kaga dhigo dakhligiisu ma haysto waxa weeyaan dadkan waxay ka hadlahayaanna waxa weeye waa wax xaq u lahaayeen waxaa u danahayd iyagoon la siinaynin iyadoo mashaariic loogu fulinin iyadoo ay baahi badan jirto haddana waxaa la cunahayay ee la xadayay waxunbaa ka soo gaarayay laakiin wixii haddiiba la dhigto xawaalado dibadaha loo dirsado oo la xawisho waa mashaakil aynu usoo noqono tarunta qabiil aynu xagga iska dhigno nin jeclaysan xaggaan iska dhigno anuu halkanaan ku noolahay axmed halkanuu ku nool yahay cabdiqaadir halkanuu ku nool yahay jamaal halkanuu ku nool yahay laakiin dadka dhibku ku dhacayo waa dadka masaakiinta ee shacabka ee gudaha jooga duruurta iyo duruufaha ay haystaan ee xoolo dhaqatada leh dadka taagta daran leh madaxda mid baan dhihi lahaa war coronavirus oo waxaa dhacahaya adduunyada lagu rogaayo niman yahow adduunyadii waa iskabagabagabo ninkii lacag urursanahayo ninkii raba inuu qabiil isku kiciyo nin walowba way kaa horeysa waxaad geysato ha loo naxo shacabka ha loo daneeyo dadka masaakiinta ah yaan la isku fiirinin hebel buu kan ahaa iyo hebel baa kan ahaa mid baan ku darsanayaa kale kuwii shalaytoo la dhibahayey ee jabhadda ahaa ee lasoo dhibaateeyey ee maanta qaab qabiil mustafa kula saftay mustafa waa shaksi waa madaxweyne time buu leeyahay hadduu tago oo mid kale la keeno ma sidaa uu tegey baad u tegeysaan camon ha lagu soo noqdo rag baan arkayay leh qorahayey magaca dadka wata ma rabno war anu shalay onelef ma ahayn waxaan diidanayn labada wiil ee isdilaysa walaalaha ah inay nabadda wada qaataan wa alxamdulilah nabad baa dhacday isbeddel baan filaynay dadkaan isbeddel ka sugaynayn aqoonta bidaynay in ay isu adeejiyaan dadkii oo loo isticmaalo oo la dhaho aragti ka duwan baan wataa magicii baan tirtirayaa gobolladii iyo dadkii baan tirtirayaa taasu wanaag ma noqonayso aqoonna kuma helaysid qofna kuu raaci maayo waxa weeyaan waxaan leeyahay labada xaafadda ninkii mustafa xaafad ku raacow mustafa wuu tegi forever looma qorin meesha markuu tago ee uu baxo ee shalay jabhaddii dadkii loo dhibaateeyey ee u rafaaday aad adu ahayd magacaas miyaad ka noqoni waa wax aada looga xumaado wey waxaan leeyahay ummaddu waa walaalo waa isku mid
shakhsiga danaystaha ah ee siyaasiga ee danta isagu leh yuuna isku kindirin ninna lacag idin kama siinayo lacagtu Mustafa dhaca cidna wax kama siinayo su-aasha odayaasha waynu ka warwareegaynaa Axmed odayaasha waxaan leeyahay arrintoodu waa arrin saxa بوينت في عم بخالد odayaashu بوينتيا صح arrintaasuna waa loo baahnaa صح run ahaantii aad baan ugu farxay anigu markii aan fiiriyey fikirkooda iyo hadalkooda anaan u fiirinaynin anu ma aqaan hal mid oon garanayo kuma jiro laakiin danta ay ka hadleen iyo arrinta ay ka hadleen maanu aan soo dhaweey laakiin ma aqaano ya yee maqnaay mise raggii aan jugtii hore cabdilla soxsanaawi wallahi horta dadku way firsanaayeen xabad baa loo soo toosaya dadku way firsanaayeen waxa weeye sirrikii hadda laga soo yarkacayaa weli dadkeenna waxay aaminsanayn oon ka dhaadhacsanayn inuu isbeddel dhacay qorigii baa weli taagan meesha ina hebelkii baa taagan marka waa la bahdilay waa la gumaystay laakiin run ahaantii arrintaasi waqti fog baa igu dambeysay mahdi ayuub allah naxariistee markuu noolaa mahdi ayuubaan ku dhehayna بسم الله الله ورينا هبارنا هلي ونولي هلي ما هو خبروه ما هو حكى الله يا عبد الرحمن عقول ما waxaan sheegayaa halkii nin ee no war waxa weeyaan waa maxaan ku dhahayay arniyo jamaal imaitosis موجاسكي وشيء موجاسكي شيء هذا الحديث بشيء هذا الحديث بشيء موجاسكي بشيء من جيت أو أرجع كوي من الثانوي لبا تشير وساكوي وحي هذا سو دغالميسي يعني كان كسر تا كنت دغالميسي تاده ما كارنا wax kale oo dooriye mara صح waxa weeye tiina beelawtay ragii baa soo xusuustay marka maanta hadalkii dhageystay waxaan isiri weli dadkii soo waxba ka noo marka dhibaatadu qofku markay soo gaadho mar waxaa jirta waxay reebanayeen oo ninka ragga wax la soo hareeyay marka waxaan leeyahay odayaashu wax fiican bay ka hadleen hala soo dhaweeyo odayaasha kale ee ugaasiyada ah ee ka dambeeyona iyo siyaasiyiintoona ka hadla arrinta waxa weeye wixii saxana soo dhaweey wixii khalad dadka laga qabto wiilkan mashal yimid hadduu khalad ku socdo khalad ku socota halo qoryahan kalena hala war arrinta saxa laakiinse xaaladdu hadday noqoto in lagu celiyo uun kii hadlaba la dhaho hebel saamiil dee weligan sakalka ila meeraysada ka gudbi mayna aad baad i mahadsantihin waa sax odayaashu cabdiqaadir ma cadayska uma harsana waad ka hadashay aduu ka soco cabdiqaadir goon wuu ka hadlay arrinkan ilaa horey inooga wad qodobkan axmed oo fiican oo wanaagsan walaashay fani dhugudna waxaan u sheegayaa inaynan axmed shida uuna ka dambeynin oo odayaashu axmed shida iyo mustafa markay noqoto mustafa inay la ku tiirsan yihiin oo in axmed shida aad u necab yihiin aan ku ogahay oo hataa taladiisa iyo waxqabadkiisa ayna doonaynin taa anaa ku adigu maadan dhex fadhiyina fikirkaad ka qabto uu sheeg axmed cabdiqaadir ah oo waddanka u dhashay anigu waxaan leeyahay mustafa nin maxamed maahe la taliyaashiisa ayaa xun qabiilna cidna ku taageeri mayno faniyay haba yaraatee waxaad soo ma jawaabaysid dadka la hadla iyaduna dadkun bay la taageereen gabadheena walaasheenna laakiin waxaanu sheegaynaa xaqiiqada jirta odayaashu waxay ku hadleen xaqiiqay ku hadleen adayna ku hadlayeen anay ii hadlayeen cid kastay u hadlayeen waxa dhibaatada jirtana way sheegeen marka mustafa waxaanu leenahay nimanka la taliyaashaada iska bedel haddaad la taliyaashu bedesho waad guulaysani meel fiicanna waad gaaraysaa la taliyaashii cabdi maxamed cumar oo kale ayaa maanta ku haystaa iyagii baa ku hogaaminayaa iyagaa dadka kugu diraya iyagaa dadka kugu baabi'inaya magaalada jigjiga maanta waxaa la yidhi fuustada biyaha waxay gaartay 200 bay gaartaa la yidhi booyadii biyahana 200 bay maraysaa la yidhi weligeedna kama dhicin jigjiga xaafadaheenna annaga weligood biyaha kamayna goyn maantana biyo la-aan baa ka jirtaa xaafadihii marka waxaa weeye arrimahaas oo dhanna budget waa loo hayaa
oo wasaaradda biyaha ayaa joogta oo waxaa jooga kuwa nimankii ceelasha qodaya ayaa jooga oo waxaa jooga qandaraaskii Shiinaha ay hadda ka hor Shiinaha ee la bixiyay ayaa jooga waxaasoo dhan iyaga joogaan haddana magaaladii maanta biyo la'aan inay tahay odayaashu way ka qandaraaskii Shiinaha 700 milyan baa lagu cunay in odayaashu hadda waxa meena sameeynin odayaashu way ka hadleen biyo la'aantii way ka hadleen in maanta dhibaato ka jirto gobolkeeni oo degmooyinkeeni la isku dagaalayeen way sheegeen oo dhibaato muxuu ahaayay dadkii dhexdooda isu geysteen way sheegeen micnaha waxa weeye Mustafa tala ay u soo jeediyeen Mustafa hadda wax dhibaato oo gooni isaga ku dhaliilayaan ma jirto marka Mustafa waxaan leenahay qof kasta waxa loo baahan yahay gurigiisa inuu kaliin gareeyo horta bil gurigaaga kaliin gareeyo nimankan adiga kula talinaya madaxtooyada ku fadhiya buurta ku fadhiya horta nimanka kala dir markaad nimanka kala dirto 10 nin oo dhinac jara hadaad rabto noo dib waan ku taageeraynaa haddana waan ku taageersanahay markasta waan ku taageeraynaa laakiin waxaanu ka doonaynaa inta ay nimankaas halka ku fadhiyaan inagu ku taageeri mayno nimanka inta halka ku fadhiyaan buurta ku fadhiyaan ay halka ku cunayaan chatka lacagtii dadweynaha cunayaan lacagaha waxa la sheegay Soomaaliland waxay cadeysay in maalin walba 100 milyan transaction halka maraan wajaale oo go'dubay dhulka loo xawisho weligeed ma dhicin lacagaas ma dhicin lacagaha loo maxwilin jirin bahsan way markaas bangiyada Soomaaliland way daaleen waxay leeyihiin maalin walba sidaan lacag waxa weliina waan daalnay leeyihiin waana arrin dhab ah loo ogyahay ma ku soo report garayaan Ethiopia financing ma report garayaan waana report garayaan way waana wasaaraddu they have to report it audited odayaasha walbaaba Axmed oo kumilaysan marka hore odayaasha inay saxan yihiin baan u sheegaynaa walaalaheena micnaha odayaasha leh waa lagu soo shubtay Axmed Shidaal lacag siiyay waxa kama jiraan maadada adduunka waxa Axmed Shidaal ugu nacabnahay anagu haddaan nahay qabiilka ka soo jeednaba Axmed Shidaal ugu nacabnahay ninka kaliya dhibaatada wada budgetka naga xiranaya waxa weeyaan heerkan gaarsiiyay hadduna isaga halka inoo fadhin lahayn dhibka there's no reason waxaan anu there's no reason aad u necbaato ama aad u jeclaato waa nin aaminsantahay bay odayaashuna aaminsan yihiin ma garat marka taas ula socda annagu ninkaasi beri buu naga yahay lagamana yaaba inaan muxuu ahaa ii sheegan taageerno wuxuu taageerayno haduu malaayiin nasiya hata waa ma saddex qadir Jamal odayaasha hadalladooda maxad ka leedahay kadibna waan ka gudbaynaa qaybtan awisheen qodobkan aynu soo koobi lahayn aanu si toos ah u qaadi lahayn Abdulqaadir waad maqlaysaa soma anigu waan ku maqlaa waa dhamaysay marka Jamal odayaasha waxay ka hadleen dhowrka qodob si aad kula muuqataa qodobo valid ay raise gareeyeen welcome bismillah qodobkan inaan toos u galeeyahay hase ahaatee xaalado fara badan oo jira oo fikirro badankooda wada muhiim ah ayay dadkuna wada jirjeerayaan saaxiibkay Cabdulqaadir ka raali ahaada arrinkaas waxoogaa uu naf Soomaaliga u baa la warsay ilama aha platformka nin shakhsi nacayb iyo shakhsi jacayl uu ku jiro dheeraadii inuu ay muhiim ay tahay gabadha uu jawaabayna waxa weeyaan hadal qabsiga baa ka maray laakiin qofka fikirka loo jawaabay qofka looma jawaabo iyana fikirkeeda xor bay ahayd waxyaabo faalidan way ka hadashay waxyaabo aanan loodan karin waanu ku taageersanahayna way jiraan qodobkan maaliyadda marka ay tahay waxa weeyaan qodobka maaliyadda deegaanka wixii maaliyad ku saabsan iyo dhaqaale ku saabsan wasiir Axmed Shide ayaa inta badan muhiimadii mas'uuliyadeedu ay raacaysaa deegaanka maaliyadiisu haddii ay kharibanto ama hoos u dhacdo ama meel kale ay ka leexato waa inuu jawaab ka bixiyo ama uu saxo oo input uu ku lahaado because mas'uulkii ugu koreeyay ee maaliyadda deegaanku ay ka imanayso way therefore wuu ogaan karaa meesha ay maaliyadda waddanku ay ku baxdo halkaa qodobka hase ahaatee odayaasha markaynu u soo noqono su'aasheeda ilama qumana inaynu ku eedayno nidhaahno mas'uul federaal ayaa soo dirsaday hadday taageersan yihiin xaq bay u leeyihiin waxaase muhiima waa odayaasha hadda aynu arkayno iyagii oo weli waddankii dhex jooga oo jigjiga dhex jooga iyagoon caytamaynin haddana inay wax dhaleecaynayaan marka anigu waxaan u yara qabaa inay tahay macnaha xorriyatul qowl macnaha qiimaysan isla markaana sharaf leh inay ku hadleen umana baahna inuu qof ku caburiyo because hebel baad dhaleecaysay ama nidaamka dowladda dhaleecaysay ama mas'uul dowladda aad maxaan ku dhahay saluutay
mucaaridnimada inay anshax wanaagsan lahaato oo qofka shaqadiisa iyo dowladda shaqo gaabiskeeda iyo ilduufkeeda inay ifiyaan ayaa loo baahan yahay laakiin odayaashu kuma jirin inay cidna ay dhaleecayn macnaha shakhsiyan inay caayeen laakiin mas-uuliyad bay dhaleecaynayeen mas-uuliyad bay saliigsanaayeen waxyaabahaasina waxaynu u baahannahay waatan hadda axmed miraad kula kaftamayoo lahaa odayaashan miyay suuxsanaayeenoo jugtii cabdi u geystay deegaanka iyo odayaasha ayaa la yara suuxsanaaye la gabsanaaya ha way dhici karaysaa odayaalaynu horey u arki jirnay mayn ahayn badankoodana waxaynu ku naqaanay waxoogaa odayaal maxaanku idhahay dowladda uun kabayo uunoo dowladda taageerayo uuna dabcan waa loo baahan yahay mid baase jirta odayaal markay leeyihiin oday dhaqmeedkii maaha ogaasyadii maaha salaadiintii kuwii dhaqanka maaha kuwaas weeye kuwa la doonayo inay ku ekaadaan shaqadooda dhaqanka iyo bulshada dhexdeeda oo bulsho iyo beelo iyo dad soomaaliyeed dhaqankooda iyo arrimahooda isku haynkooda inay hoosaan oo arrimaha siyaasadda ah xafiisyada ugu jiraan kuyuuga ugu jiraan qandaraasyada iyo hebel meel macnaha wiilashooda shaqo u raadinta ay ku socdaan taas ayay ahayd macnaha nimanka nugaasyadii salaadiintii inay maaragtay ceebta ay faraha kala baxaan kuwanse waxa weeyaan waxa way ahaakaayeen macnaha waxgaradkii degaanka siday u hadlayeen niman maamul soo marayba u yara kaayeen siyaasadda la yara haystaba oo kaayeen inay hadlaanna waa loo baahan yahay iyaga iyo kuwo kaloo ka badanba haddii dadka degaanka gudihiisa lagu bahdilo isla markaana macnaha laga saaro inta yar ee ku jirta ee bahda ah ama maxaanku idhahay kartideeda ku jirta xidka nolosha maxaanku idhaha dareenka damiirkeeda ku jira laga dilo waxa weeyaan ha dhowdin waxa weeyaan waxa iman doonta uun in maxaanku idhahay ayna may hadlaan uuna ha dhowdii la yidhaaho labadii ama 20kii isu yimaadee sidan oo kale waxbaa yara khaldan yidhaahana kuwa shacabaaba hadda la boodayaba anu ma qumana in ay maanta ay mudan yihiin inay dhaleeceeyo in la dhibaateeyo xaq bayna u leeyihiin inay hadlaan xaq bayna u leeyihiin inay xisbigay doonaan ay taageeraan xaq bayna u leeyihiin mas-uuliyiinta joogta inay dhaleeceeyaan wayna ku xaq leeyihiin xataa haddii ayna jirin wax kale oo khaldan ayna jirin in ay saluugaan way ku saxan yihiin taas ayaynu u baahannahay inay dadkeenu uu yeesho macnaha han siyaasadeed oo nool oo geesinimadii lagu yaqaanay shacabkan lagu yaqaano uusan geesinimadu eeg maaha violence maaha inaadan cabsanin un keliya maaha laakiin waxa weeyaan cabsi iyadoo oona waxba kaa qaadayn haddana mar walba waa inay kuu muuqato options kale oo fara badan ama macnaha tala kale oo badani ay kuu muuqato macnaha waxa weeyaan qofku ma cabsanayo laakiin inaan madax wax walba herti isugu tuuro geesiga ama maxaanku idhaha wanaaggu waxa uu sheegayaa sida kale ee ka wanaagsan inuu yeelo iyadoona cabsi aynu ku kalifayn therefore dadka waxaynu naqaanay odayaasha inay cabsi ka hadasho marka kuwani cabsi miyay ka hadlinayso waa maya haddii ay dhaqaale ka hadlinaysana istil xor bay u leeyihiin oo iyaga laftoodu igu shubadaas ayaaba nooc kalaba ah waxa weeyaan waa inay timaado maxaanku idhahay qanci lafteedu odayaal noocaasi u jiraan oo buuxsada la yidhaah oo iigu shubtay way badan yihiin laakiin odayaashaan waxa qabaa inay ay ku fiicnaayeen waa tallaabadii ugu horreysay odayaal noocaasi ama rag noocaasi ay qaadaan muwaadin ahaan shakhsiyan oo keli marka loo yidhaha xaq bay u leeyihiin intooda ay isu tagteen hadday isku fikir yihiin xaq bay u leeyihiin inay xafiisyada dowladda u dacwoodaanna gar bay u leeyihiin ama waraaqa ha u dirsadaan ama iyagu ha tagaan ama midiyaha ciddii uga dhegaysanaysaaba ha uga noqoto hadhowdii waxay noqonaysaa inay abuuranto dad maxaanku idhahay kalsooni iyo han qowmiyadeed leh oo hadli karaya iyaga oon cabsi ayna ka qabin waa lagu xidi iyo waa lagu dili doona weli oo jirto cabsidaasina aan u malaynay wax kaloon ka odhan karaa odayaashaasi ma jiro in la dhaleeceeyana waa khalad baan anugu arkaan laakiin in aad loo sii horboodo oo iyaga laftooda inay risaalo cusub wadaanna in laga dhigana maahan degaanku uu lahaan jiray rag odayaala buu lahaan jiray ambasayaal buu lahaan jiray
rag la yidhaaho oo markay halkaasoo kale ka soo baxaan maxaan ku dhacay Ethiopia lafteedu ay gudlan jirto oran jiray macnaha libaaxyadii wey marka libaaxyadii Ethiopia markaas ay u taqaanay deegaankeena ayaa maanta bisaday ay ku soo hadhay marka waxa loo baahan yahay in odayaasha noocaas oo kale aan la bahdil isla markaana aan aad loo sii hor ordin oo iyaga laftooda ayna risaalaha ayna wadinay laakiin nin fikirkiisa iyo damiirkiisa uun adigu loo arko isla markaana wuxuu ka cabanayo talow garmo wax jira ma yihiin inuu la isweydiiyo wixii lagu sixi lahaana ay dee noqoto wada shaqayn iyo midnimo guud ay noqoto arrinkaas saas uu badan yahay waxa weeyaan xafiisyada degaankuna haddii ayna sharaf loo yeelin oo mas'uuliyiinta fadhida aan iyaga dhexdooda ayna qaab wanaagsan oo sharaf leh aan loola dhaqmin marka loo dhiibayo iyo marka laga beddelayaba iyaguna marka ay ku shaqaynayaan lafteeda sida loola dhaqmayo waa wax meesha ku jira shacabku marka xafiis dowladeed oo hadda ka bacdi laga yaabo inuu shaki geli doono inuu qiimo iyo mas'uuliyad badan uu saaraado haddiiba ay noqoto in baabuurtii la iskaga tirsado معناها طريقة فراغ ويان هالكاس مروة البطوط كويين فاهمين مدحوينه وقري حق ولا إنه نكو دونا مقعابا نكو دونا نكقاضو لكن فرصة دي بقى كخلطان أو بروسيس كي بقى كخلطان جمال وحي وكادي بروسيس كي بقى كخلطان يا فرصة دي كخلطان مياه مسوا كترقل يوم حوها دبا صعد نظامكي هوراتيو habkii horeete waxaan karays excuse hold on don't aniga de habka ay gelnaa ma farsama ka qalad processka ka qaldaman isagu mandate waa ka weeyaan hold on let me say this processka markuu qaldamayo waxa jira ficil Ahmed waxaan ku leeyahay process ka weeyaan shabab horta ما يبغى أنا كخدمات بروسسكا خلطمي وحويان بروسسكا كخلطمي وحويان إنه ميسك كوركيس كابينيت كإنه مركا أنتو كقيمة يو كقاضو قاب كان مركب وحيابها كان وحي كمتاي مركا أي نقطة إن أي فعل دقالما يان سياسيينتو تانا وحلو باهن مرول بسياسي كوين مسؤولكي إن أو كفقادو فعل دقالان كنوعا أو كلا تاس مصطفى وكو خلطناني حتى هدايس قبتين inuu qaabka ula ficiltamo oo waxa weeyaan waxyaabihii cabdi iyo raggii hore lagu eedeyn jiray ahaa maxaan ku oraa ninkay maalin isqabtaan uu la gaaro way noqonaysaa waxa weeyaan anigu wax weyn ugama sheegay laakiin waa taan hore u lahaa waa inuu mas'uulka uu ka weyn yahay tanaasulaadka faraha badan iyo dulqaadashada iyo madax salaaxa dadka uu maamulayo iyo shacabkaba iyo mas'uuliyiinta uu maamulayo kalaba inuu u dulqaato halkaas laakiin madaxweynuhu xaq buu leeyahay inuu ninku doono magacaabo ninku doonana xaq ka qaado laakiin borsaska ka khaldamay waxyaabahani tahay inuu ficil dagaalanka shakhsinimada dagaalanka noocaas ah inay sira murmeen inuu la dhaqmo labo inuu maxaan ku dhahay dariiqa dhexdiisa kaga qaado isagoo miiska gudihii korkiisa kaga qaadi lahaa marka arrin labadaas arrimood ba kusoo koobnaanaysa inaan dib ugu noqdana ma doonayo laakiin su-aashu waxay taagnaydu odayaashu maxay ahaayeen odayaashu waa odayaal fiican si fiican bay u hadleen laakiin risaalo ma ilmi hadse ahaatee waxa loo baahan yahay iyagana in aan aad loo sii horboodin laakiin odaya kuwaas iyo kuwa lamidayba inay hadlaan oo shacabku kuwa hadlaya oo xaq sheeganaya iyagoon wax xumaynaynin inay noqdaan arrinkaas ka bax aad ma san tahay waxaan malaynayaa inaan ka hadli karin caawa Jubbaland ka hadalno dib baan u dhiganaynaa maadaama aynu 3 saac iyo 20 daqiiqo ku jirnay rab aba sameynayna oo soo koobaynaa hadda intii aynu falanqeynaynay cabdiqaadir wax baad ku daraysaa wallahi nin howda sheekada way iska xiran tahay oo filimka waa la soo gabagabeeyay waxa weeye anigu kulay deegaanku waxaan leeyahay maadaama cudur xun oo adduunkii dhaqaalaha lahaa maanta ay ka qaylinayaan oo qaati ka taagan yihiin oo guriyihii ka wada galeen waxaan anigu kulay halkaa waana iyo wacyigelin soo jeedin lahaa kulay weyna dhageysanayaan madax ka mid ah madaxda muxuu ahaay xukuumadda deegaanka waxaa laga yaabaa wasiirka caafimaadka inuuna dhageysanaye waxay ila tahay inaad dadkii masaajidada ka xirteen oo muxuu ahaaye meelihii iskuuladii aad xirteen oo jaamacadihii aad xirteen haddana dadkii dukaamadii iyo magaaladii iyo dadku iyo bajaajyadii sidii ay u socdaan dadku isdhexyaacayo oo hoteeladii sidii loo fadhiyo shaah loo wada cabayo
waxay ila tahay in markaasi cibaadada ilaahayna la xiray waxay ila tahay inaan halkaa wax wanaagsan oo fiican aan la gaarin kol haddaanan dadka karantiin la gelinaynin waad aragtay goboladan muxuu ahay Puntland iyo Somaliland inkastoo weli Somaliland ma dhahayo Puntland karantiiga sida Europe oo kale iyo America oo kale ayay sameeyeen hatta dawladda federaalka way ka fiican yihiin Jubbaland gobolada la yiraahdo muxuu ahay Puntland sida dadku u xareeyeen marka waxaa loo baahan yahay intan waxaan dabayshan in dhaafayso inkastoo iyagu dhulku iska kulul yahay oo cudurkan ilaahay ka hayade uu iimaanin haddana waxaa imanaya dad dibadaha ka yimid baabaayeen hadday maartay u gaaro cudurka deegaankeena hore inooga wada axmed qodobkan aad ma santahay waanu maartay wax yar baan anigu odayaashii hadaladoodii aan yara dul marayaa haddii ay axmedow yarkaad wax yar intaa hadalkaaga gelin jeceli aqoonyahanka jamaal oo si fiican u falanqeeyey inaan ka daba dhaho aniga waa saaxiibkay kolley wuu ii ogol yahay haddaan ku yar tuuro dagaal ba keeni maayo axmedow aqoonyahanka waxaad ku yarriixday inuu siday tahay u taabto laakiin uu ka yar leexday oo wuxuu yidhi aduu hadda waa inaad ku riixdo runtii waxaa weeye madaxweyne mustafe talada dadka siinaya tala gelinaya run ahaantii waxyaabo badan oo layskala taliyaa jira haddii talada lagaa qaso oo lagu dhaho warniyow hebelba saasu samayn jire adigu maxaa lagugu samaynayaa suuqa ku bahdil oo si aan lagugu soo dhawaanin صح وأهرين waxay dadkii talada dhiibayay la talinayay inay arinta ay geysteen oo inay tahay ficil aad u xun aana ka dhicin hadda ka hor deegaanka way dhacday in xukun la iska qaado way dhacday in la isku hayo laakiin in suuqa bartankiisa inta la isku qabto baabuurta la iskaga wareejiyo waa sheeko hor leh axmed maamulka hore way samayn jireen waxay rukaadi maamulka hore way samayn jireen in ruuxa la bahdilo oo dhaqan bay u ahayd waxaan xusuustaa nin ka mid ah adugu madaxda sare oo habeen aan isla joogna jigjiga wuxuu yidhi ruuxa marka la rabo in la bahdilo waa askar baa loo diray waa lasoo qabani shaati inuu xidho looma ogolo funaanad garan isagoo qaba ayaa qabaal lasoo saaray baabuurka dagaalka lasoo saaray qabaalka ay new booliska wataan waxaa marka lagu amray inuu soo mariyo meeshuu jaadka ka iibsan jiray isagoo 4 askari ay hareeraha ka fadhiyaan isla dhexda u fadhiyo hoteelkii uu ka qadayn jiray ka cuntayn jiray in la soo mariyo muxuu ah suuqana dhowr goor lagu soo wareejiyo kadibna xabsi la geeyo marka magaaladaasaa looga sheekaysanaya warkii ma arkayseen ya dowlad ma burcad bay ahayd dowlad taa waan ka baxnay taa waxaan ka wadnay tii unbaa haddana bilaaba maadaama muxuu ahaa hoggaankii nabadgelyada iyo muxuu ahaa cadaaladda axmedow dee adigii baa ka qaatay intii axmed odhan lahaabe waa something ma dee intii odhan lahaa waad ka boobtay axmedow waad doonaysaa maxaan ku yidhi macnaha way jirtay oo bahdil xun baa jiray laakiin midda la filanaya hadda waktiga iyaga iyo waktigan dadkii been baa loo sheegay xilligii isbeddel baa dhacay aqoonyahan baa yimid ninkii hore waxaa lagu haystay dad aan aqoonin oo waxba aqoonin bay ahayn baa lalahaa صح ninkanu waa professor waa nin aqoon leh waa nin soo shaqeeyey waa nin garanaya waa nin xuquuqda bini'aadanka garanaya soo ma maxay tahay maxaa keenay aniga oo intaasoo aqoona laygu sheegayo in aan isticmaalo waddadii ninkii shalay uu isticmaalayay macnaha ma aha dee taas waxa weeye taasoo kale anigu aan sheegayaa ma ahane ma aha sunnada xun lama raaco sunnada fiican baa la qaataa qof haddaad ka raacdo waddada xun la mid baa tahay marka tan aan leeyahay ha ka waantoobaan tii ugu dambaysa ha noqoto yaan saasoo dambe laysu ceebayn adugu hadalkaa marka wado wax yar odayaasha ayaan hadalladoodii dib u fiirinayaa videogan saaka la soo diray oo shirka ay qabteen waan wada dhageystay dhammaantii runtii odayaasha waxyaaba badan oo valida ayay rays gareeyeen oday ka mid a odayaasha oo odayga labaad ee hadlaya wuxuu ahaan jiray guddoomiyaha gobolka qoraxey ayuu ahaan jiray oo odayga labaad ee hadlaya xilligii cabdirashiid dullane
ayuu ahaa gudoomiyaha maamuladii hore unba wax ka wada maamuladii hore ka mid ah xilligaas welibana ONLF baa baabuur wati ku qarxisay bambaano dhigtay oo lug buu dhaawac ka yahay odagaa waxaan kula kulmay muxuu ahaa qabri daharan kula kulmay waxyaabo badan oo muxuu ahaa marka deegaanka ka jiray oo dhibaato badan ka jirtay buu iga warramay oo maartay ay ONLF geysanayeen oo Tigreegu geysanayeen oo maartay laba dheri baan ku jirnay buu maartay labada dhinacba aan dab nooga socday marka odagaasi ma dhihi kara aniga Axmed Shida soo dirsaday ama Axmed Shida u adeegaya ma dhihi karo no way sababtoo nin Axmed Shida xiriir la leh iyo nin Axmed Shida afkiisa ku hadlaya midna ma aha waa aniga laakiin odayaasha kaleeto aqoon uma leeyahay odayaasha dhan weynaa ku yiri odayaasha dhan miyaa odayaasha dhan Axmed Shida shaqo kuma laha shaqo kuma leh okay waa hadalkaan qaadanaynaa marka odayaashan waxyaabo badan oo ay rees gareeyeen oo ay muxuu ahaa sida dhaqaalihii deegaanka soo geliyay 20 bilyan oo budgetkii ah inaan la ogeyn meel ay hadda martay waynu ka hadalnay barnaamijyada ku qabanay 15 bilyan oo muxuu ahaa deegaanka markii ay la wareegeen xukuumaddii hore loogu yimid inaan xisaab xir laga samaynin 20 bilyan ee ka dambeysay 2011 waa taariikhda Ethiopia inaan iyadana la samaynin meel aaday deegaan walba ama gobol walba intaasoo bilyan ayaa mashaariic in lagu fuliye ahayd wax mashaariica oo la fuliyey maanta oo xarga laga jiray oo maartay adduunyaha la tusay ama la tusay mayna arag waxaan anigu tagay 2019kii baan deegaanka tagay meelo badan baan soo maray daabshiil oo lacag ka soo qaadanayay ninkii markaa joogay wuxuu ii sheegay in maalinka jamcaha haddii aad lacag qaadanayso jamcaha imaanin buu yidhi maxaa dhacan ku yidhi wuxuu yidhi nimankan muxuu ahaa xafiis madaxeedka ama aynu ugu yeerno inaga wasiirro ugu yeerno ayaa lacagaha xabushe buu yidhi maalinkaasoo dhan waa busy buu wajaale feri marka lacagahaasi meelay aadayaan waan iska garanaynaa accountyo kale lagu shubanayaa marka deegaanka inuu musuq maasuq ka jiro in muxuu ahaa boob xoolihii muxuu ahaa shacabkan loogu tagay wax loogu qabto ka jiro taasi wax badan baynu ka hadalnay oo aynu ka hadalnay odayaashuna tii bay ifeeyeen runtiina waa arrin aad looga xumaado oo maaragtay murugadeeda leh in dadkeenni ay maanta qaarkood oon u dhimanayaan in dadkeenni qaar ay gaajaysan yihiin oo muxuu ahaa odayaasha ay sheegeen in jigjiga biilaan ka jirto gobolka qoraxay oo tagay booyada biyo ahayd 500 bay ahayd way qaaliyooday haddana cirka u sii kacday ma awoodaan dadku tubooyin biyo male waxaa jirta nin muxuu ahaa siraajamiya la oran jiray arono magaciisa laakiin oromo ayuu ahaa laakiin wuxuu sheegtaa Soomaali uu sheegtaa oromada jaarsaan ahay buu dhahaa wuxuu qaatay 2018kii aakhirkii iyo beginningkii 2019kii 500 milyan oo contract buu qaatay ninkaas 500 milyan lacag badan weeyaan wuxuuna ku qaatay inuu biyo geliyo gobolka qoraxay fiiriya ninkaasi qoraxay cag muuna dhigin lacagtii budgetkii waa loo shubay ilaahay baa inaga og meeshay martay ma madaxda siisay baa la kala qaybsatay ma isagaa jeebka ku shubtay ma meela kamiyay soo gaadhin ilaahay inaad aragtiin kale mooyee gaari wuxuu wataa liyu booliisa ay dusha ka saaran yihiin oo cabdi bilaa ninkii baa wataa isagii baa wataa magaciisa muxuu ahaa horta magaciisa igu qodobkaynu ka hadlaynaa axmed hadda waa odayaashaas inoo soo leexi annada musuqaa ka hadli doona ninkaas shujaac marka waxa weeyaan lacagta 500 milyan u qaatay biyahaynu ka hadlaynaa dhibaatada deegaanka ka jirta iyo musuqmaasuqa iyo xoolihii deegaankan iyo budgetkii iyo muxuu ahaa mashaariicdii iyo kontraadyadii sidii loo boobaan ka hadlaynaa oo odayaashu ifiyeen marka lacagtaas qoraxay la shirayay ayaan shir kala qayb galay jigjiga wuxuuna u sheegay in biyaha oo sub contract ku bixin doono oo nin kala siini doono oo ninkaasi uu biyaha biyogelin doono magaalada qoraxay laakiin odayaashii si adag bay ula hadleen anigu waan fadhiyey adaa la joogay miya waan joogaba anigu waan fadhiyeyba wuxuu kula galay muxuu ahaaye sheegay hotelka Istanbul buu kula galay shirka wuxuu yiri nin baan qandaraas ku siin doonaa oo aniga sub contract siin doonaa ninkaas gelinta dhamayni doonaa hadduu ilaahay yiraahdo 2012 bilowgiisa magaalada qoraxay waxay noqon doontaa magaalo biyuhu muxuu ahaay meel walba iskaga yimaadaan waa la murmay odayaal baa la murmay waxay yiraahdeen waxaas waxba kama jiro ilaa iminka gaari xaajada had geysaa la yiri hal gaari oo xaajada oo tira survey baan ku soo sameynaya gaariga xaajadana la soo noqon la yiri saaxiib waxaan noo qaban maysid lacagta budgetkii noo celi anigu waan fadhiyaa beenkaas right okay waxa weeyaan Abdulqaadir manager buu ka ahaa Istanbul hotel ayuu muddo joogay oo maartay waxyaabo badan kala socdaa oo maartay madax badan kula kulma halkaas marka lacagtaasi meel aad lama ogo waanu ognahay
waxaa kaloo jirta 700 milyan oo la siiyey shirkad Chinese oo 9 waddan ka dhisaysa jigjiga xagee ku dambeeyeen miyaad warkaysin cabdiqaadir shalaad ka timid 3 bilood ka hor baad ka timid jigjiga wax wadooyin la dhisay ma aragti wadadaas waxaa ku xigala drinkage biyaha hoostiisa oo intaasoo milyan Chinese la siiyey lama hayo laftooda lama hayo Soomaa marka arrimahaas oo dhan dadku waxay la qaylinayaan waa gartood waxa loo baahan yahay saxiix baa loo baahan yahay waxa kaloo loo baahan yahay muxuu ahaa in dadkan budgetkii loogu talagalay ee dowladda federaalku soo siisay in wax loogu qabto haddii aan wax loogu qabanayninna haddii ay maaragtay koox u timid meesha inay ka xoogsato waxaan u malaynayaa inay in ku filan ay xoogsadeen ha iskaga tagaan meesha waa simple as that ummaddan waxay u baahan tahay wax loo qabtay u baahan tahay ummaddan waxay u baahan tahay in muxuu ahaa nabadgelyo ay helaan in muxuu ahaa dadkan reer baadiyaha ee isku dalaynaya dhulka in nabadgelyo laga sameeyaa loo baahan yahay ciidankii new booliska ahaa waxaanu la soconnaa in muxuu ahaa 10 generaal ay xidhan tahay sababo loo xidhay garan mayno annagu laakiin kolleyba waxyaabaha muranka uu ka bilowday baa la yidhi isaga iyo mustafa iyo muxuu ahaa cabdicaadil ay ka bilowdeen in maaragtay ay soo cawdeen waxna laga qaban waayey marka arrimahaas oo dhan in la saxaa loo baahan yahay annagu cidna ma taageerno cidna mucaarad kuma nihin laakiin sida ay tahan u sheegnaa waxa weeyaan inaan mas-uuliyad baa naga saaran dhibaatada shacabka annaga inaan soo gudbinno hadda maanta waxaa la ii soo diray gobolka Shabeelle gabar 17 jira oo maartay nin intuu kufsaday uu dilay lagama sheegin raadiyaha TV-gan maartay SRTV lagama sheegin maanta wigana shalay la dilay oo maartay gabadha magaceeda la soo diray hadda tilmaan TV-ad ka arkaysiin marka dhibaatooyin badan baa ka jira gobolka muxuu ahaa Shabeelle dhibaata ka jirta gobolka Qurxi dhibaata ka jirta iyo Doolo Baali iyo Erer maartay dhibaata ka jirta waxaas oo dhan in wax laga qabta loo baahan yahay cudurkana muxuu ahaa isna dhibaato weyn buu hadduu soo gaaro deegaankeena u geysanayaa waxaanan hubaa maartay dad badan u dhamaanayaan haddii aan laga taxadirin oo aan xadka la xidhin maartay aan maartay soo gelaya deegaanka ama oromada ha ahaadaan jaadkan in laga joojiyo waa muhiim marka waxaan ugu baaqaynaa dowlad deegaanka Soomaalida in isqabqabsiga iyo muxuu ahaa la joojiyo iyo muxuu ahaa iska horkeenida ururka ONLF nabad bay qaateen deegaankii bay ku sugan yihiin waxaan la soconnaa in maaragtay faragelin badan lagu hayo iyagana waxa looga baahan yahay in iyaguna muxuu ahaa ay ka soo baxaan bushka oo ay hadlaan oo maaragtay ay wixii dhibaato jirta ay banaanka soo dhigaan lana xalliyo dhibaatada la xalliyo marka waxaan dhammaan uga mahadnaqayaa dadkii barnaamijka nagala qayb qaatay tilmaan TV waa TV-giini ummadda oo dhan buu ka dhexeeyaa waxaan idin siinayaa hal daqiiqo wixii tale tusaale aad u diraysiin ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad deegaanka iyo muxuu ahaa wixii baaqa u diraysiin maamulka ugu sarreeya dowlad deegaanka hal daqiiqo ku soo gabagabeeyadan waan soo gabagabeynaa barnaamijka Jamal Sheekh Ibrahim ku bilow Ahmed Miraad den Cabdiqaadir welcome bismillah wax badan kama oranayo kullay akhyaartan deynaya wixii kale la oranayo laakiin ummadda deegaanka ku sugan Somali state ummadda u dhalatay waxa muhiim ah inay la yimaadaan wadaniyada marka la leeyahay waxa weeyaan lahaansho dal iyo dad inay la yimaadaan mas'uuliyiinta u shaqaynaysana inay ixtiraam ula dhaqmaan sidoo kale mas'uuliyiintu haddii ayna iyagu ixtiraamin ama qofku kursiga uu fadhiyo hadduuna ixtiraam una u yeelin isaguna ixtiraam cid u yeelaysaa ma jirto dhammaan baan ka hadlaya mas'uuliyiinta markaan ka wado kuwan maxaan ku dhahay layerska ah macnaha lo odhan karo madaxafiiseedada ama wasiirada aynu u naqaano agaasimayaasha kuwaas oo dhan haddii ayna command structure-ka ay u kala sareeyaan haddayna isku ixtiraamin oo protocolka iyo sharciga ayna isku maxaan ku dhaha ku kala soconin qofkaas shaqadiisana aan lagu qiimaynin oo qofkii shaqo wanaagsan iyo dadaal wanaagsan sameeyana aan lagu qiimaynin hase ahaatee lagu iloobo hal maalin oo ishardideen ama aad wax yar ku muranteen wax allayaalo wixii wanaag aad soo wada samaysteen ama qofkaasi culayskii iyo shaqada uu hayay iyo sida uu ummadda wax ugu qabanayay iyo muwaadinimadiisii iyo hankiisii wanaagsanaa hal maalin haddii la ishardiyo in qofkana aad la isugu sii talaxdago bahdil caadi ka ah deegaankeenna ilaa maalinkii la aasaasay oo ninba nin kale oo maaragtay maalintiisi yar qabtaan si yaroo hoose ficil hoose oo la yidhaaho ficil foodley loo odhan kara siyaasadeed in loo dhaqmo oo aad la isu rifo aad bay u yara xun tahay arrinkaas in laga koro ayaa loo baahan yahay guud ahaan shacbi iyo
siyaasiyiin iyo mas-uuliyiinba dadku inay hadlaan oo siyaasadda ka hadlaan oo falanqeeyaan oo cawdaan oo wixii caqligal ah wax walbana waa caqligal laakiin inay dadku damiir hadlaan baa loo baahan yahay sidii deegaankeena lagu yaqaanay si ay u soo baxaan dad siyaasiyiin oo han leh oo qowmiyaddan markaas qiimaheedii iyo waxay xaq u lahaydba bannaanka usoo dhigi kara uguna soo dhicin kara meelaha ay uga maqan tahay islamarkaana gaadhsiin qowmiyadaha kale ummadda ay ku wada nool yihiin ummadda Itoobiya wax kale oo badan oo kusii dari karaa intaasi ma jiraan laakiin ummaddu waa inay dareento waddanka inay leeyihiin inay cid kale ahayn siyaasiyiintuna inay dareemaan ama mas-uuliyiintuna inay waqti kooban ay joogayaan islamarkaana inay is-ixtiraamaan haddii ay isku sii tarax tagaan waa ficil gamboole aan loo baahnayn taa ha laga koro nin walbaabana waa la ogyahay mas-uuliyadda iyo waxa sharcigu siiyey wixii aad fadhiga ku qaban karto inaad orod ku qabato waa laga fiican yahay adigoo fadhi iyo deganaansho qaban kara inaad orod iyo boodbood ku qabatana waa laga fiican yahay dadkuna inay bartaan waxa ay leeyihiin inuu yahay awoodda ugu koraysa inuu shacabku u leeyahay therefore inuu shacabku hadlo oo uu ku hadlo qaab anshax iyo garsheegasho runi ay ku jirto oo si fiican mar walba gartooda ay u akhristaan una sheegtaan وماسنتها أحمد إيو عبد القادر وادي إيمان يا فضلا حلقة وحير السوق تلفون عادي صوعي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة حقنا صوعي سامي مقعاقة مقعي محمد صوعي مريكن أوكي هوري وقال والله برنامج وحكا لأن سبب صيغة التلفون بكوتشرش ما من قوس الريان كان إيو ما أرتي وزيركي وزيرك عدالة يا عبد العادل هبكي لو قال موافقة شرعية سيادة كل مقطع هرا وقال والله waad mahadsantahay walaale waa la socdaa si fiican baan ula socdaa nin deegaanka ka soo jeedanahay oo hawshan ula socdaa warbaahintan iyo tilmaantiina u celinaya iyo hawshaad ka hadlaysaan muhiimka ah waxaan arkaa runtii deegaanku inuu galay xaalad fawdo ah oo wax sharci la yiraahdo oo la tixgelinayo haba yaraatee meesha hadda aysan ka jirin xilligan xaaliga wax sharci qof laga qaadayna ma jiro wax oo de sharci loo maray oo wada sharci ah waa laga qaadi karaa qofka xilka oo qofka xilka lama dhalan laakiin in wada sharci ah loo maro muhiim ah shan marka fawdadeedii asalka ahayd bay ku laabatay sida muuqata in awood la isku adeego فعليه هذا ويسكسر نقضنا انجينير كي تلفونكو سيستم كا خوغا markuu time ku socdo sidoo noqdo leeyihiin waxgarad bay leeyihiin oo qalbi leeyihiin oo qaali ugaasi leeyihiin garaaday leeyihiin dawladda heer federal ay hoos tagaan haddii ay dadku isku tashanin dee oo sidan ku fiirsadaan 10 sano dambe waree la gelaya haddana oo dee aan caaqibteeda aan aad loo mahdin doonin oo dee si maanta odayaashu sheegeen laga ay ka dhalan karto isku dhac beeleed iyo qabaa'il ay ka dhalan karto oo aad u baaxad weyn oo dareensanahay oo goobo fara badan oo deegaanka ka mid ah carqalado iyo isdil iyo qabaa'il ay odayaashu sheegeen hadda ay ka taagan tahay nidaam dawladeed oo u qumahayo oo xilligan xaaliga muuqdana ma jiro iyadoo cudurka halista ah joogo oo Itoobiya gudaheeda laga helay oo xaaladdu meel ka ramayso cid walba ay Allahumma sallim taagan tahay xaaladdu ay xiriir marayso haday dadkii meesha u sareeyay ku mashquulsan yihiin waxaan daba inoogu jiro oo munaasab ahayn oo ina qabanin bay ku mashquulsan yihiin muda inay aniga jeebadayda iyo aniga odhaahdayda iyo aniga rabitaankayga cid mas'uuliyadda saaran ku xisaabtamaysa iyo meesha ay joogtay inaysan meesha joogin marka dadka meesha jooga waxaan ugu baaqaynaa aqoon-yahanka iyo waxgaradka dadka meesha u dhashay danaynaya ka soo jeeda siyaasiyiinta wada dhaqameedyada ugaasiyada salaadiinta cid kasta oo meesha laxjaala ka haysa inay xaaladan u istaagto oo dee waqti ku bixiso waa muhiim si xal rasmi ah loo gaaro oo u jahaysano Itoobiya waxa la qaybsanaa maxaan qowmiyada kale iska dhicinaa maxaan isku duubni samaynaa maxaan aad u diyaar garownaa iyo mataqaana cudurrada halista ah dad waxaan u nahay ilaahay musiibo dul keenay marka dadku inay fadhiga ka kacaan baanu leenahay sin ma dul qaadan karno wax sii fiirsan karana ma aha waana ka baxay aad baad mahadsan tahay maxamed from USA waad mahadsan tahay taasi waa fikirkaaga runtii dad badan oo kula qabaan in aan maaragtay ay dowladdeegaanka xaaladda uu hadda ku jiro ay tahay xaalad aad u cakran oo u baahan sabata bixin cabdiqaadir anugu axmedo waan baxay akhyaare waan salaam marka waad mahadsan tahay cabdiqaadir welkan kusoo dhawow 2 daqiiqo kusoo gabagabee cabdiqaadir hore u gal cabdiqaadir
markuu wareeri jiray ha goon haye waxaa weeye horta runtii dowlad deegaanka xukuumadda Soomaalida waxaa weeye maanta waxay taagan tahay in maanta odayaal ay ka hadlaan magaalada Jigjiga ayagoo joogo oo hadda ka horan aan dhici jirin taa laftirkeeda guul u soo hoyata oo Mustafa laftirkiisa lagu amaano u baahan sababtoo ah meena dhici jirin Cabdi waqtigiisii inay odayaal intay isu tagaan inay intay ka hadlaan iyagoo nabad qaba guryahooda ay tagaan alxamdulillah taasi waxa keenaysaa Mustafa runtii dulqaadkiisa ay keenaysaa marka waxaan oran lahaa taa laftirkeeda waa dimuqraati heer la gaaray weeye dimuqraati la gaaray weeye odayaashu dhibkooda ay sheegtaan dhibkii dadka ay sheegtaan Mustafana uu wax talaabo uu ka qaadin taasi laftirkeeda waa guul la gaaray weeye ani waxaan ku soo gabagabeynaa hadalkayga waqti dambe weeye waxaan ku soo gabagabeynayaa ayada hal dhowrayo dimuqraatigeedo la dhowrayo waxyaabaha qaarkoodana in la iska ilaaliyo waxaan maartay rugcadaagii injineer Axmed oo soo haray inta kale waa kala baxnay waxa hadlay hadda muxuu ahaa Maxamed Qorraxay oo ka soo hadlay Germany oo markaasi ka hadlay muxuu ahaa inaan xidliga loo baahnayn isqabqabsho oo loo baahan yahay muxuu ahaa in cudurradan sidii dadka loo wacyigelin lahaa laga hadlo marka cudurradan runtii khatar weyn bay ku noqonayaan hadday deegaankeena gaaraan ilaahay inuu ka badbaadiyo deegaankeenii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo adduunweynahaba ayaan ka baryaynaa marka annagu tilmaan TV ahaan waxaan mar walba ka shaqeynaa sidii aan isku soo dhaweyn lahayn bulshada Soomaaliyeed sidii aan meesha dhib ka jiro aan toos ugu daari lahayn si dhibka wax loogu qabto runtii waxay u muuqataa muxuu ahaa maalmihii ugu dambeeyey ama wiigi ugu dambeeyey wixii ka dhacay Jigjiga inay la mid tahay muxuu ahaa maamulkii horeeto wadadii ay mareen inay mareen ay la mid tahay oo runtii aynan muxuu ahaa isqabqabsasho iyo isku bahdil suuqa dhexdiisa ay soo noqotay arrintaasina arrin u fiican ma aha imijka iyo sawirka laga haysto dawladdan uu hogaaminayay Mustafa Cumar waayo waxaa dadku filayeen isbedel cusub iyo muxuu ahaa dimuqraadiyad iyo inaan la jaan qaadno Etoobiyada kaleeto kama dhacdo kililada kaleeto is-afgambi iyo ciidan in la soo adeegsado marka new borisku iyagu ma artay kolba ninkii un amro bay hadalkiisa qaadanayaan ma dhihi karaan miya ninkan waa nin muxuu ahaa hogaanka ciidanka ahaa oo maartay new boris ay hoos yimaadaanba nidaamkan naloo amray ee la leeyahay muxuu ahaa suuqa ku bahdila suuragal ma aha inay dhahaan baa la rabay laakiin iyagu meeshii loo dagaba waa taagayaan assalaamu calaykum cabdi waxa weeyaan muddo waxaa naga maqnaa yar codka naga maqnaa oo waxa weeyaan cod ma jiraan kuu soo qoraynay hawaan hela codka hadda waan hagaajinay waa mahadsantaha walaal صح wadan aad iyo aad u dhibaataysan waxaa jirta waqti yar haddii roobkan la waayo waxaa jirta dadkiisii inay dhibaatoonayaan oo mar walba waxa weeyaan ay biyo la'aani ku dhacdo maanta waxaa laga cabanayaa caasimadii Jigjiga laga cabanayaa laakiin sida degmooyinka iyo maxaan ku dhahdaa gobolada waxa ay muteen dadkani war kama hayo right waa iyadana oo laan ba ka jirtay dhibaato biyo la'aan waxaanu ognahay sida gobolka Nogobeed oo kaleeto waxa weeyaan hay'ad laaqaynta casloona jiray baa intii ay sida u eegtay ayaa waxay tiri waxa weeyaan raadkii nabi aadan haddii la eego wadan la arki baanu aragnay bay dhaheen right oo ay macnuhu ka dhigan tahay abuurkii uu alla abuuray wax macnaha nidaam dawladeed oo horumar ma jiro wax uga dambeeyay ma jiro right waqtiga dhaweyday uu jiraalkii dhacay abaartii xumayd ay dhacday baa waxaan eegay meel la yiraahdo surul meel la yiraahdo eegay صح meeshan la yiraahdo waxa weeyaan magaalada la yiraahdo maxaan ku idhahdaa sagag la yiraahdo sagag iyo surul baan maqli jiray waa sagag magaalada la yiraahdo biyuhu waxay u jiraan maxaan ku idhahdaa geedkan ay u jiraan iyo maxaan ku idhahdaa halka magaaladii waxay isu jiraan dhowr mitir bay isu jiraan right okay haddii aad eegto shakhsiga kolka biyaha dhuraya meeshan waxaa taagan intaasoo baaldi baa yaala shakhsiga biyaha dhuraya macnaha biyuhu inta ay jiraan dhawidooda iyo sida aan dadka looga faa'iideynayno qofka ceelka ku dhex jira waad arkaysaa haddana waxa weeyaan wax anfacu kala yaho kubaayad buu ku dhuraya waayan darra meesha waxay ahayd matoor in la saaro ceel laga qodo oo biyaha dadka loo soo saaray ahayd waxaa
la mid aha oo waxa weeyaan iyadii oo biyihii weliba ay geedkan ay u marayaan iyo waxa weeyaan badii macaanay ay geedkan u marayaan meesha ayuun la yiraahdo hadii maxaan ku idhahdaa aad sidaa u eegto waxa weeyaan waxaad arkaysaa weliga waad arkaysaa bilaantiisa waad arkaysaa kolkaad ayuun taagan tahay oo aadan hadda gaadiid aad ku gaadhana ma aad lihid maxaan ku idhahdaa dariiqa aad u martana ma lihid waxa weeyaan dadkaasi oon bay u haraad bay u baqbaqtiyaan dhibaato wallahi waxaa la mid aha magaalada dhowrka jeer la dumiyey ee jabhadda on alif loo dumiyey iyo waxa weeyaan maxaan ku idhahdaa magaalada guris la yidhaahdo ayaa iyaduna dhibaatada qabta oo waxa weeyaan booyadaha kolkol loo geeyaa baa la yidhi inta maxaan ku idhahdaa booyadu inta ayna gaadhin biyuhu kolkay ka guraan biyaha roobku kolkay ka guraan waxa weeyaan inta la gaadhayo booyada inta dacwadeeda lagu soo maqan yahay iyo jigjiga dadka gobol baa haraad loo aasaa bismillaahi waa ya dar wallahi waxaana lagu jiraa 2020 macnaha dhulka noocaas haddii aad eegto waxaad arkaysaa laagaha macnaha ay magaaladu kor degan tahay biyaha waxa weeyaan qofku kolkuu ceelka ku dhaadhaco intiisa qaarka hore iyo way muuqataa marka biyihii buu gaaraya durba biyihii buu gaarayaa macnaha si looga faa'iideeyo oo inta maxaan ku dhahdaa waxaan kadaatay ama riig loo geliyo ama maxaan ku dhahdaa biro xoog leh dawladdu ay wadato loo geliyo ceelashan sida loogu qodo oo xataa loogu hagaajiyo lama hayo dakhli baa la soo qaadanaya dakhligii meel uu maray lama yaqaano jaad baa lagu cunaa nin walbana waa xaraystaa waa darada deegaanka ka taagan weeyaan runtii waxa weeyaan wax la xisaabtamayana ma lahan meesha waxay noqotay maartay nin walba oo ka shaqayso ummadiina way baaba'aysaa oon gaajo waxaa la mid aha meesha la yidhaahdo iminka aan kuu sheegayo garbo iyo inta u dhaxaysa maxaan ku idhahdaa ceelka la yidhaahdo bahashii sulu la yidhaah meeshan iminka kuu sheegaya sagag la yidhaahdo inta u dhaxaysa haddii aad u lugaysi iyo haddii aad macnaha maxaan ku idhahdaa gaadhi u raacdaba haraad baad ugu baktiyaysaa xaaska ayaa kasoo jeeda sagag halkaasii kasoo jeedaa soo maa xaaska ayaa sagag kasoo jeeda marka kolkii dhulkii dhibaatadiisii macnaha waa inta aan ka arkay macnaha dhibka inta aan ka arkay baan sheegayaa meel kasta oo ciidda waddanka ahana waxa weeya neefsanaa nula arag haddii aanu maxaan ku idhahdaa iyaga dhaliil aanu u sheegnay intay maqli lahayeen ay ku toosi lahayeen xataa ما waxay waa bislaan la'aanta Soomaalida weeyaan Soomaalidu moogtahay indhahooda waxay ku arkaan qabiil bay ku arkaan mas'uulku ummadda uu mas'uulka u qaaday haduuna u xaqsimaynin dhibaatadoodana uu kaafinaynin muxuu ahaa dadku way hadlayaan dhibkii bay sheeganayaan markay sheegtaan ninkii dhaha qabiil baa naloo ataagay qabiil baa laga hadlay waa istubidnimo aqli ma taasi waxayaan maya Mustafa Xajar ninkii magaciisa qora ee Facebooka ku soo qora si wanaagsan iyo si xun ninkii u qoraba waxa weeyaan in meel loo targeesan baa loo arkay arrinta waxaan leeyahay hal laga waantooba Mustafa wuu matalaa maxaan ku idhahdaa waa muwaadin haddii uu si nidaam leh oo wanaagsan uu u shaqaynayo waxa weeyaan haddii shakhsi aanu taageeri lahayn oo kala adan jirin haddii uu wanaagsan yahay weeye cabdi caad ma santaa systemka isdaminaya waan kaaga mahadnaqayaa walaal aad iyo aad baan ku salaamaya insha Allah taala maatani inta waxaan kusoo gogobeyna barnaamijka caawa tilmaantii wuxuu ku hadlaa codka shacabka aan codka lahayn ee Soomaaliyeed cid gooni ah uma adeegna cid gooni ah ma weerarno waxaanu mar walba u dhaxaynaa ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyiinta marka aanu ka hadlaynana anagu ogama hadlayna qabiil waxaan uga hadlaynaa wax qabadkooda iyo mas'uuliyadii loo dhiibay ma u gudbiyeen dadka waxna ma u qabteen ummadan dhibaataysan ama ooman ama gaajaysan ama shaqooyinka u baahan in loo abuuro wax ma u qabteen miisaaniyadii dalka xaggee aaday waxaan inaan la xisaabtano oo tooshka ku daarno ayaa mas'uuliyad naga saaran tahay tilmaan TV cid gooni ah ma adeego kharash lacagta anaga gelina cidna lacag kama qaadano annaga lacagtaanada gelino si aan dadka annaga u wacyi gelino waxna ugu sheegno marka ruux walba halkan ka hadlay fikirkiisa xor buu yahay aragtiisa xor buu yahay ruux walbana muxuu ahaa waxaan ku soo dhaweynaynaa inuu barnaamijyada nagala qayb qaato fikir sax hadduu leeyahay shakhsi gooni ah ma ataagno mana cayno mar walbana waxaan u dhaxaynaa ummadda Soomaaliyeed dhammaantiin waxaan idin leeyahay inta daawanaysa waad mahadsantihiin habeen wanaagsan intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno good night إلهنا هنيجي بدبادين أمانتين بقى عذر كان أدوينها سامي coronavirus good night